جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في الدنيا. شيخ محمد عبد أمر waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiis ah inaan caawa halkan hadduu ilaah iraado aan diyaar kugu nahay inaad noo faa'iidaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wixii markaa nafteenna iyo waddadaas aan maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala nugu dhowaanayno aan ku toosinayno iyadoo halkan ay dad badan kaala socdaan rag iyo dumarba ah weli laynka teleefonkana ay dad badan ku jiraan oo haddii aysanba maaragtay kun gaarin dhowr boqol ay ka badan yihiin intaasina waxay kaa sugayaan insha allahu tacaala kelimadaada iyo wacdigaaga inay dhegaystaan hadduu ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaas oo isugu jira dhalinyaro rag dumar dad odayaal ah dad waxa weeye maaragtay waddadii saaran oo yani coast to coast dalkan weyn aad aragtay qaarkood ay goobihii shaqooyinkooda ay joogaan marka intaba insha allahu tacaala caawa hadduu ilaah iraado aan nasiibkaan u helnay inaad noo faa'iidaysid falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة إن شاء الله تعالى أن شعلها إنان إذن سوقد بيو wixii ilaahay iga waafajiyay tabaaraka wa tacaala aan ka idhaahdo waxay ku saabsan tahay kayfa nantafic bimawcidati alqur'aan ama seen u intifaacsan karnaa waanada qur'aanka. waa arrin runtii aad iyo aad muhim u ah oo aan u malaynayo inay nolosheenna in badan ka maqan tahay. waxaad ogsoon tihiin in aad iyo aad ay u badan tahay ruuxa muslimka ah qur'aanka ama dhagaysigiisa ama akhrintiisa ama wacdiga iyo waanada maqalkeeda aad bay u badan tahay. haddana maca daalika waxaa aad u yar arrintaasi intifaacsigeeda
iyo inay wax ka beddesho nolosheenna. sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaa markaad iska rab dhigto qur'aanka iyo waxa uu ka hadlayo iyo siduu u hadlayo iyo nolosheenna maanta muslimiinta joogta, laba kala fog ayaad runtii arkaysaa inay kala joogaan. in badan arrintaasi waxaa sabab u ah waxaa meesha ka maqan intifaacsiga aan mawcidada iyo waanada iyo waxsheega qur'aanka inay ina anfacdo oo nolosheenna wax ka beddesho. arrintaasi ayaa maqan. bal qodobkaasaan doona insha allahu tacaala inaan iftiiminno. nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ku sugan xadiidkiisa inuu allah tabaaraka wa tacaala baryi jiray oo waxyaabaha uu weydiisan jiray uu ka mid ahaa, ilaahayow qur'aanka waxaad ka dhigtaa guga qalbigayga doogga ka soo saara oo qalbigayga iftiimiya. ilaahuw sidaa ka dhig buu dhihi jiray nebigu sal alla alay wasalam markuu ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa aan la tira koobi karin uu ku baryo ducadii caanka ahayd ee la wada garanayo: allahuma ana cabduka ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uka as'aluka allahuma bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fi cilmi alghaybi cindaka an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadri. ilaahu nuurka qur'aanka waxaad ka dhigtaa, magacyadaadaasaan kugu weydiisanayaaye ilaahu qur'aanka waxaad ka dhigtaa rabiica qalbii wa nuura sadri. marka ducadaasi macno aad iyo aad u weyn bay ku tusi. cidda ducadaasi samaynaysa ilaahay saa u baryaysana waa nabigeenna moxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. arrintaa marka baahida loo qabaad garanaysaa. qodobada marka aan isleeyahay taqriiban aan doonayo inaan kor maro oo keeni karta inaad qur-aanka intifaacsato kadibna aad noqoto ehelkii iyo dadkii qur-aanka mid ka mid ah, kuwaasi oo ahlullaahi wa khaasatu nabigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam. allah tabaaraka wa tacaala dadka wuxuu ku leeyahay ehel buu ku leeyahay, dad khaas u ah buu leeyahay. dadkaasi ummadda inteeda kale ka xiga waa dadka ahlulqur'aanka ah, qur'aanka yaqaana, ee qur'aanka ku dhaqma, ee qur'aanka fahma, ee qur'aanka kariimkii uu noloshooda saameeyo oo wax ka beddelo, oo qur'aanka kariimka la nool. dadkaasi ayaa waxaa la yidhaahdaa ahlullaahi wa khaasatuhu, ilaahay ehelkiisii iyo dadka khaas ahaan isaga u xiga weeye allah tabaaraka wa tacaala. qodobada muhimkaa marka waxa weeye oo arrintaasi la dhihi karo asaas bay u tahay ama cawaamil bay u tahay keeni karta. kow, horta ilaahay tabaaraka wa tacaala tawfiiqdiisa iyo waafajintiisa iyo bixin ilaahay bay ku timaadaa tabaaraka wa tacaala. ruuxu inuu yacni qur'aanka wacdigiisa intifaacsado oo ka faa'iido oo uu dheefta ku jirta iyo wanaagga ku jira helo oo noloshiisa ay wax ka beddelo, yacni arrintaasi waa uun ilaahay siintiisa weeye tabaaraka wa tacaala. taasaa runtii asaas u ah. maxaa yeelay nabigeenna waxaan dhihi lahaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu ku leeyahay: faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaannamaa yasacadu fi asamaa. allah ruuxuu raba inuu hanuuniyo laabtiisa ayuu islaamnimada u waasiciyaa. ruuxuu rabo inuusan hanuuninin oo inuu baadiyeeyo ruuxuu doonayana
laabtiisa wuxuu ka dhigaa mid cidhiidhi ah oo haddana aad cidhiidhi u ah. khayrka inuu qaatana waxay ka dhigan tahay sidii isagoo samada fuul la yidhi oo kale, samada sidii isagoo sare xagga sare xoog ku fuulahayoo kale, oo yacni wuxuu isticmaali lahaana aan haysanin, isagoo samada fuul la yidhi ayay ka dhigan tahay xaqa iyo wanaag adoo intifaacso sida ay dhibka ugu tahay ugu culus tahay. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa hidaayada leh, tawfiiqda isagaa iska leh, isagaana bixiya. sidaas daraaddeed ayaa allah tabaaraka wa tacaala ay laga maarmaan tahay waxa isagu uu hayo oo gacantiisa ku jira in la weydiisto. asbaabtii aad ku heli lahaydna dee inaad la timaado oo jidkeedii marto, rabbigaana aad kaalmaysato tabaaraka wa tacaala oo aad u weydiisato. waa qodobkaasi qodobka asaasiga ah ee runtii lagu gaadhi karayo. sidaas daraaddeed baa nebigeenna waxaa badnayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ducadiisa aad ugu badnayd inuu allaha weydiisto wixii uu baray inuu haddana uu ku anfaco. wuxuu ilaahay ka magangeli jiray tabaaraka wa tacaala wixii uu ilaahay baray inuu noqdo waxaan intifaacba lahayn. allahuma innii acuudu bika, xadiiskiisii ducadiisii caanka ayaad garanaysaan. allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha. ilaah waxaan magan kaaga ahay cilmi aan manaafacaad lahayn, oon ruuxii waxba ka beddelaynin oo noloshiisii aan saamayn ku lahayn, iyo qalbi aan khushuucaynin oo markii ilaahay la xusuusiye aan xusuusanaynin, iyo naf aan dhergaynin oo aan waxba adduunyada iyo madaalibteeda iyo shahawaadkeeda iyo dooniddeeda aan ka dhergaynin, iyo duco iyo baryo aan la aqbalaynin oo la soo diidayo. ilaahu afartaa arrimood baan magan kaaga ahay buu rasuulku dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka cilmiga inaadan sidiisaba baranin oodan ogaanin oo qur-aankaba aadan xaggiisaba u soo jeesanin ood iska jeesatana oo mucrid can dikrillaahi aad noqotana waa musiibo weyn. in intaad u soo jeedsato aad intifaacsan weydana iyaduna waa musiibo weyn. labada musiiboba kala daran. qodobkaasi waa qodobka koobaad. qodobka labaadi waxa weeye in ruuxa intifaacsanaya oo qur-aanku u anfacayo oo wacdigiisa iyo akhrintiisa iyo sheegiddiisu ay noloshiisa wax ka beddelayso, iimaan saxa waa inuu ruuxaasi leeyahay. qur-aanka kariimkaa siduu tilmaamayo, ruuxoo iimaan saxa leh oo iimaanku u saxsan yahay ayaa qur-aanku anfacaa. rabbigan wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin. waani oo wax u sheeg baa layidhi dadka, oo qur-aanka ku waani oo ku dul akhri oo bar oo u sheeg. maxaa yeelay waanadu waxay uun anfacaysaa dadka mu'miniinta ah. ruuxii qalbigiisa khayr ku jiro oo wanaag ku jiro oo khayr doon ah oo ay daacad iyo dhab ka tahay, ruuxaasaa allah tabaaraka wa tacaala waanada ku anfacaya oo intifaaceeda iyo wanaaggeeda uu siinaya. allah tabaaraka wa tacaala sidoo kale aayaad kaleoo qur-aanka kariimka ka mid ah wuxuu nebigiisa ku yidhi fa innaka laa tusmicu almawta walaa tusmicu summa adducaa'a idaa wallow mudbiriin wamaa anta bihaadi alcumyi can dalaalatihim in tusmicu ilaa man yu'minu biaayaatina fahum muslimuun. adiga nebi maxameda ma maqashiin kartid kuwa qalbiyadoodu dhinteenee iimaanka aan lahayn, ee qalbigooda khayr oo dhan uu ka madhan yahay, quluubtoodu ay wax dhimatay tahay. kuwaasi waxba ma maqashiin kartid oo waanada iyo khayrka iyo qur-aanka ma maqashiin kartid oo qalbigooda uma dejin kartid. sidoo kale kuwa dhagahala ee aan iyagana dhagahoodu xidhan yihiinna dhawaaqa ma maqashiin kartid iyo yeedhitaanka, oo dee waxuu ka dhagaxay dhagihiibaa xidhan. markay jeedsadaan oo khaasatan iyagoo dhagala haddana ay sii jeedsadaan, ruux dhagala oo haddana kaa sii jeedsaday, si aad wax u maqashiin karto ma fududa ama wax u fahansiin karto. laakiin ruuxa haba dhagala aadee hadduu kugu soo jeedo
kolaad faraha iyo wax ugu tiltilmaantood faraha wax u fiiqfiiqdo waxunbaad fahansiin kartaa marka mid dhagala oo laakiin sii jeesado haddana kaa sii jeeda dhawaaqaaga ma maqlayo si kalena wax uma fahansiin kartid ruux indhala oo yacni waxa weeyaan isaguna indhala baadida iyo lunsanaantiisa ayadana kama hanuunin kartid baa layidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam adiga cidda aad wax maqashiin karto oo qalbigiisa khayrka aad u dejin karto oo aad muxuu ahay khayrkaasi intifaacsan kara waa cidda aayaadka rumaysan buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala oo haddana allah u hoggaansan ruuxa marka qalbigiisa hadduusan iimaan saxa gelin inuu galana aan looguba talagelin oo u diyaarsanayn wuxuu noqonayaa uun marartu laa adri waan maqlay laakiin ma fahmin maadaa qaala aanifan munaafiqiintii yidhi oo kale waaye markii qur'aanku soo degoo nebigu ku dal akhriyo oo waaniyo oo wax u sheego ayaa waxay leeyihin war mar dhow maxaa la lahaa mar dhow waxunbaa un dhawaaq baan maqlaynay meesha waan fadhinee laakiin muxuu aha maxaa la sheegahayay bay leeyihin muxuu nebigu sheegahayay halkaasay kaga egtaa dadka meesha isugu imaanaya oo majaalistan khayrka imaanaya in badanoo ka mid ah waanadaa iyo wacdigaas iyo waxsheegaasi uun ku dhacahaya dhagahooda in badani waxay u badan tahay dhegtaasay ka gashaata kalena waa ka baxda meesha markuu ka kacana waxaba yaraatee isbeddela ma leh waa laga yaabaa noloshiisa intaa uun inuu wax dhegaysanayo laakiin haddana waxay ku biirinaysa iyo waxay ka beddelaysa midna inaysan jirin runtii waa musiibo aad iyo aad u weyn oo ruuxaasi wuxuu u baahan yahay inuu waxyaalo fara badan bal raadiyo cudurka iyo dhibka haystana inuu baadho musiibaa haysata musiibadaa wuxuu u baahan yahay marka inuu raadiyo waxa kalifaya qodobka saddexaad ee iyadana muxuu ahay sabab u noqon kara inaad intifaacsato wacdiga qur'aanka iyo waxsheegiisa waxa weeye alwujuudu almaxalli alqaabil yacni waxa weeyaan qur'aankii in uu ku saameeyo ood raadkiisii aad hesho meeshii aqbali lahaydee qaban lahayd waa inaad haysato bimacnaa waxa weeyaan macnuhu qur'aanku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa huwa almu'ahir almuqtadi waa shayga wax saameeya isbeddelkana keena wey inuu sidaas yahayna allah tabaaraka wa tacaala qur'aanku inoogu sheegayo xataa ibni aadankan iskaba dhaafe haddii buuraha waaweyn iyo dhagaxyaanta ad adag ilaahay ku soo dejin lahaa tabaaraka wa tacaala waxaad arki lahayd ayagoo isbeddelay oo buurtii iyo dhagixii isbeddelay oo uu khushuucayo oo uu ilaahay cabsidiisa la dildillaacayaad arki lahayd qur'aanka haddii lagu soo dejin lahaa buurta korkeeda low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun xataa buurihii iyo dhagaxyaashii buu qur'aanku wax ka beddeli lahaa haddii lagu soo dejin lahaa dadkii hore ee ahlulkhayrka ahaana alla siduu u tilmaamay fiiriya ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula wayakhiruuna liladqaani yabkuun wayasiiduhum khushuucan buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala kuwii qur'aanka hortii cilmiga la siiyey waa ummadihii horteen intaan qur-aanka la soo dejinay kutubtii hore wax ka yaqaanay wey qur'aanka kariimkaa markii lagu dul akhriyo waxay u hoobanayaan garhgadh yacni garharhkooda iyo wejiyadooda ayaa hoobanaya ayagoo sujuudsan oo qur'aankii markay dhegaystaan ma taagnaan karaane sujuud bay la daadanayaan waxayna leeyihiin subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula ilaahay baa nasahanoo ceeb ka foge yacni ilaahay wacdigiisa iyo ballanqaadkiisu mid la samaynayuu noqday oo qur'aankani horaa loogu sheegay inuu imaanayo way sugayeen kadibna intay daataan oo ay taagnida ka daataan oy sujuud la daataan oo ay khushuucaan bayna ishayn karin sababtuna waxay tahay qur'aanka kariimka wuxuu yahay shay quluubta ibni aadamkiiyo noloshiisa saameeya waa shayga ugu muhiimsan uguna xeel dheer wey yacni waxa weeye mu'ahir
quluubta ibni aadamka iyo noloshiisa saameeya oo qur'aan la mida ma uu jiro. taasi horta waa inuu jiro. qur'aankii waa inaad hesho, saamayntiisii waa inaad hesho. waa shaygii isbeddelka keeni lahaa wey. isbeddelkaasi waa inuu helo isaguna meeshii qaban lahayd iyo weelkii weelayn lahaa waa inuu helo. yacni taasoo laga wado waa inuu helo qalbi saalix ah, qalbi ku habboon, meel ku habboon, meel u diyaarsan waa inuu helo wey. hadduusan helin oo qalbigii uusan u diyaarsanayn, qalbigaasina qalbi nool uusan ahayn, hadda markaasi wax wey iyadana maadaa qaala aanifan unbuu ruuxu odhanayaa, war hadda maxaa lalahaayoo la sheegahayay muxaadaradii wadaadka qaylad dhadhawaaq umaan maqlayna waxunbuu sheegahayee war maxaa lalahaayoo wadaadku uu ka hadlahayay. meesha intuu fadhiyey oo dhan, intuu wax dhegaysanayey, intuu duruuso dhegaysanayey, intuu masaajidka wacdi ka dhegaysanayey, maxaa lalahaa unbuu meesha unbuu kaga dhaqaaqaya hadduusan intaa ka badan iyo wax kaleetaba uusan ku kicin. marka waxa weeyaan arrintaasi waa arrinta labaado, waa inuu jiro qalbi arrintaa weeleeya. waana midka rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimkaa ku sheegay, inna fii daalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid. markii laga soo sheekeeyey yacni muuqaalada yacni qiyaamada qaar ka mid ah oo ayado qur-aan oo badan arrinta ay soo sharxeen geerida iyo waxa ka dambeeya iyo maxaa khatar soo socota, ayaa waxaa la yidhi inna fii daalika ladikraa. arrintaa la soo sheegay dhexdeeda waxaa ku jira waano, laakiin yay ugu sugan tahay wey liman kaana lahu qalbun, ruuxii qalbi leh, aw alqa asamca wa huwa shahiid. waa inuu ruuxu qalbi leeyaho qalbi u diyaarsan uu leeyahy. yacni waa inuu qalbigiisu soo jeedo oo khayrka inuu qaato u soo jeedo, oo markuu dhagaysanayo qalbigu dhagaysto, oo qalbigu nadiif yahay oo qalbiga cabsi ilaahay iyo aakharo iyo yacni waxa weeyaan ay ku jirtaan la doonaya qalbi xayi wey. in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin liyundira man kaana xayaa. qur'aankani wuxuu u digayaa oo la hadlayaa oo wax u sheegayaa oo uu saamaynayaa cid nool. waxay culimmadu tafsiirku leeyahay liyundira man kaana xayan ay xaya alqalbi waay, ruux qalbigiisu nool yahay inuu u digo. amaa ruuxan qalbigiisu noolaynoo meyd yahay waa kaa aan soo tilmaannayo wax badani ma qabanayo. maxaa yeelay xubinka yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dhigay midka wax weeleeyo oo wax qabto oo yacni khayrka muxuu ahaa intifaacsado oo kadibna jidhka intiisa kala siiya, oo yacni gacmaha siiyo oo lugaha siiyo oo indhaha siiyo oo nolosha saamaynteeda marka ay ka bilaabato waa qalbiga. qalbi hagaagsan oo wax yeelahayo wax aqbalayo haddaadan lahayn yacni waxa weeyaan sidaa unbay kuu dulmari un wixii la sheegayoo dhan waa ku dulmarayaa, saamaynna kuguma yeelanayo. rabbigeen tabaaraka wa tacaala meelo badan oo qur-aanka ka mid a ayaa arrintaa lagu tilmaamay. marka waa inuu jiro qalbigaasi, waa inuu jiro oo meeshii ay qalbigaagu u diyaarsan yahay. allana tabaaraka wa tacaala in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum. ilaahay hadduu qalbigiinna khayr ku og yahay waxa laydinka qaaday wax ka fiican buu idin siinayaa baa layidhi. nabigeennana xadiidkiisii waa kii ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. allah tabaaraka wa tacaala jidhkiinna quruxsanna ma fiiriyo, suuradiinniiyo quruxdeedana ma fiiriyo, xoog iyo tabardarrina ma fiiriyo, laakiin allah wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo qalbiga waxa ka dhalanayo camalka ah. qalbigaaga wixii uu ilaahay ka arkuu kugula mucaamaloonaya. qalbigu ma istaahilaa in la siiyo khayrka iyo wanaagga qur'aanka, mise qalbigu ma istaahilo meel wasakhaysan oo hallaysan oo muxuu ahaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaaggan ma siinayo, meel aan u soo jeedinna ma siinayo. laakiin meeshu markay u diyaarsantoo saalix tahay yacni ayna istaahishoy ku habboon tahay, ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrka markaa waa gelinaya waana intifaacsanaya. marka qalbigaaga inaad ka dhigto qalbi u diyaarsan waanadii iyo waxsheeggii qur'aanka qaadashadiisa iyo noloshaadii inuu wax ka bedelo
halkaasi waa qodobka muhiimka isagana waxa isagana muhiim ah oo iyadana aad iyo aad qayb weyn uga qaadan karta inaad la timaado dadaalkeedii allah tabaaraka wa tacaala markaa dadaasho ayuu midhaha ku siiyaa man jadda wajada waman zaraca xasada baa layidhi ninkii dadaala dadaalkiisuu helaa ninkii beertana midhihii buu goostaa haddii aan dadaal xaggaaga laga helin oo adigii aadan soo jeedsanin oo aadan wakhti bixinin oo aadan dhegaysanin oo aadan muxuu ahaayey aadan isku dayin inaad la soo baxdo shaygan sirtan qur'aanka iyo wacdigiisa inaad intifaacsataba haddayna dadaalkeedii aadan bixinin hadda waxa weeyaan see lagugu siinayaa wey adigii baaban u jeedine adigii baaban rabine adigii baaban xaggeeda u soconine see laguu siinayaa wey allah tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay oo uu yidhi tabaaraka wa tacaala waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin kuwa jidkanaga ku dadaala buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala doonidiisa ku dadaala oo barashadiisa ku dadaala oo raadintiisa ku dadaala oo aan ishakranin isagu oo intuu dadaal heli karo ku bixiya alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala jidadkanagaanu ku hanuuninaynaa allana kuwa wanaagga sameeyuu la jiraa yacni waxa weeye markaad dadaal bixiso ayaa midhaha lagu siinaya laakiin haddaad jeedsato haddee dan lagaama le markaa adigaa khayrkii ka tegay adigaa nacay adaan danaynin adaan wakhti ku bixinin adaan dhegaysanin hadda markaasi waxba lagugu fali maayo cidina kuma rabto adiga unbaana midhaheeda xun iyo dacarta ka dhalata goosan doona hawl adiga ku khusaysa wey ilaan meeshani sideedaba inaynu fahnaynu u baahnay walaalayaal yacni allah tabaaraka wa tacaala dadaalkan ee waxyigan laynoo soo dejiyey malagga laynoo soo diray kitaabkan qur'aanka ah nebiga laynoo soo diray waxaan hawshan dadaalkan laynagu bixinayo sideedaba waa inaad isweydiisayay dani ugu jirtaa miyaa lagugu danaysanayaayo ma rabbigaabaa kugu danaysanayo allaha soo dejiyey ma wax manaafacaaduu kugu qabaa haddaad yeeshiya haddaad diiddana ma dhib baa soo gaadhi haddaad oggolaatana ma wax manaafacaad iyo dan isaga khaasa ugu jirto milkigiisa u kordhaya maya yay dani ugu jirtaayo intaasoo dadaala lagu bixinaya adiga waay adiga haddii aad garan weydo ood wixiiba ka danaysato ood ka jeedsato dee waxa weye hawl kuu taalla waay allah tabaaraka wa tacaala khayrka iyo wanaagga dad istaahiluu siinayaa oo raadinaya oo doonaya oo hadh iyo habeenba u taagan oo raba oo rabbigood weydiisanaya asbaabtiina la imaanaya marka yacni waxa weeyaan waa inaad mujaahadada la timaado saas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu lacallakum turxamuun qur'aanka marka la akhrinayo dhegaysta oo u dhag raariciya oo isku taxallujiya si laydinku naxariisto bimacnaa waxa weeyaan dadaal la imow oo raadi cilmigii qur'aanka raadi markaad dhegaysanayso isku taxalluji inaad fahanto waxyaabaha kale kaa mashquulinaya iska fogee asaga yacni qalbigaagoo dhan isugu gee taasaa qur'aanka kariimkii tilmaamaya markaasaa lagu naxariisano allah tabaaraka wa tacaala manaafacaadka qur'aanka uu ku siinaya qodobkaasina marka waa qodob kaloo dadaal markaad la timaaduu ilaahay wax ku siin tabaaraka wa tacaala sideedaba madaalibta ilaahay laga dalbo iyo waxyaabaha laga rabo laba arrimood waa inaad isugu darto waa midda koobaadee jidkii waa inaad marto asbaabtii la timaado waa midda labaade asbaabto keli kuguma filee allah tabaaraka wa tacaala waa inaad weydiisato aad ugu yacni gacmaha u horsato inuu rabbi ku siiyo tabaaraka wa tacaala taasina markaa saas wey iyadana allah tabaaraka wa tacaala qalbigaaga waa inuu ka arko inaad wanaag doonayso ood khayr doonayso oo qalbi munaasiba buu rabbi wax siiyaa tabaaraka wa tacaala arrinta kale meesha ku jirtaay waxay tahay waxyaabaha waxaa jira ee diidaya inuu qur'aanku qalbigaaga galo ood intifaacsato waxyaabaha diidaya waxaa ka mid ah haddaadan fahansanayn maxay ka dhigan tahay qur'aanka inaadan macnihiisaba garanayn waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waa dad fiican oo qur-aanka ku dadaala intaasoo dad oo qur-aanka xifdisan baa inala jooga
dad badani maalinkii intaasoo jus bay akhriyaan waxaa laga yaabaa inuu wiigiiba mar qur-aanka dhammeeyo waxaa dhici karta bishiiba mar inuu dhammeeyo qur-aanka iyo akhriskiisa waa ku fiican yahay xifdigiisa waa ku fiican yahay laakiin fahamkii qur-aanka ma hayo qur-aankii ma fahansana luqadii qur-aan kusoo degay ma fahansana kaasi waxa weeyaan inuu qur-aanka intifaaciisa gaadhaaye uma badna sababtuna waxa weeyaan yacni shayga markaad doonayso inuu ku anfaco waxa ugu horreeya inaad fahanto sidaas daraaddeed baa asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam qur-aanka markay baranayaan meesha inagu qur-aanka xifdigiisa aan uun ka bilownoon ku dadaallo way fiican tahay laakiin iyagu waxay ku bilaabi jireen inay nebiga sal alla alay wasalam 10 aayadood ka qaataan 10ka aayadood markay ka bartaanna waxay baran jireen 10ka aayadood cilmiga ku jira qur'aan ahaan iyo akhrintooda iyo sidoo kaleeto ku dhaqanka iyo ku camalfalka saddexda qodob bay 10ka aayadood ka qaadan jireen 10ka markay bartaan bay 10 kale uga gudbi jireen cilmiga ku jira iyo camalfalka iyo akhrinta hal mar bay isla baran jireen markaas waxay yiraahdeen fata'allamna alqur'ana والعلم والعمل معا هل مربان إسلا بران القرآن كي علمي كوتشري فقهي كوتشري يعمل فالكي سيبا إنك لكن تاسي وإنك مقنته الله تبارك وتعالى وحيري كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أي وحان سودتشين كتاب كان كتاب بركي سنوي وبركتي سفر بدنته محل سودتشيي ليدبروا آياته آياته سإني أفر صدانو معناها كتشرا أي روحان أو إلا الصبحان أو أسرار القرآن كإني قاران أي سكوديان مركي تدبرانو معناها الراديان كدبنا وليذكر أولو الألباب وانا قاضى الشدة إيا انتفاع سيقا كدن بيا مرك انتفاع سيقو قورمو إيمانا يا مركز شيقا فهمتو هذا الشيقي ما فاهمين بدساتكو انتفاع سوا sidaas daradeed baa culimada muslimiintu waxay leeyihiin waxa laazim ku ah ruuxa muslimka ah inuu dadaal ku bixiyo quraanka luqadiisa inuu barto oo luqada carabiga ah sida quraanka kariimka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inna anzalnahu qur'aanan arabiyyan la'allakum ta'qiluun war quraankan soo dejinay buu alla yiri isagoo luqad carabiga ah maxaa carabi loogu soo dejiyay si aad u fahantaan يا فهمي مركز روحي اللقادة قرنا يبا فهمي وحا عجيب ومضى مسلمين تو إنا اللقادة عربية كزاهدوين نعضو دمر كذي إيا الرقة دي إيا دلنيرة دي إيا أضياش دي إن اللقادة عربية أي اللقادها مرك إنو لم يتهي أما أي اللقادة فربضان با إنو في عينهن أيضو كالليدتو مضنان تلسينيو إن بدن واحد أكسونتين دادكي نهاد قربها تغي odayaal waaweyn iyo duqayti iyo islaamo waaweyn iyo dad waligoodba aan waxba xariiqin baa wadamada reer galbeedka tagay meeshii markii la tagayna waxa lagu yiri shaqana ma helaysaan wadankiina xuquuq kuma leedin muxuu ahay sharcina heli meysaan haddaynaad luqadaha wadamada ku hadlin haddaydan ingiriis ku hadlin haddii aydan ku hadlin muxuu ahay wadamadii kale la tagay xataa kuwa muxuu ahay luqadoodu ayba iskaba qalabsan tahayba waligeedba aynaan maqlinba meeshii markii la tagay duqdii way ka lahaday oo odaygii wuu ka lahay oo iskuulaa la tagay waxoogaa biyaha lagu cabaa la bartay markay ugu yar tahay lagu fahmo oo xafiisyada lagaga danaysto ilaahay baan idinku dhaariyay waxoogaaga yarkee lagu gaadhayo baa waxay kaliftay iyadoo xataa da' la yahay oo Soomaalidu waxay dhihi jireen ruuxu markuu da'oobo maskaxdiisu way adkaato waxba ma fahmo war luqada ingiriiska luqada yani wax way maskaxda fahantay iyo aqliga fahmay iyo garaadka gartay yani wax way luqada carabiga iyo quraan kariima inuu fahmi waayo wax macquula ma aha laakiin waan loo jeesanin tanna waxoogaa manaafacaad adduunyo aba galay tanina wax weeyaan lama danaynin oo looma jeesanin wuxuu leeyahay sheekh al-islaam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah fa inna nafs al-lugha al-arabiyyah min ad-din bud war luqada carabiga diintay kamitahay wa ma'rifatuha fardun wajib barashadeeduna waa waajib diiniya way maxaa yeelay lianna fahma al-kitabi was-sunnati fardun
maxaa yeelay qur'aanka iyo sunnada fahamkoodu waa waajib in la fahmo walaa yufhamu ila bifahmi alluga alcarabiya kitaabkii qur'aankii iyo sunnadiina lama fahmi karo ilaa luqadii carabiga ahayd in la fahmo weeye mooyaane wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shayga sidiisaba waajibkii sharcigu uusan dhammaystirmaynin in isaga lala yimaado mooye asaguna waajib buu noqonaya luqadii carabiga ahayd qur'aankii iyo sunnadii lama fahmi karo in iyadii la fahmo mooye waajib bay noqonaysaa farad barashadeedu yani waxa weye min hadihi alxayhiya sidaas daraaddeed waa in aan isku taxallujiso ood isku dhibto in aad barato qur'aanka fahamkiisii macnihiisii inaad gaadho luqadiisii inaad barato si aad yani u intifaacsato oo qur'aankii ayaa adiga aan laydiin dhaxaynin oo aan lagugu turjumin oo aadan luqado kale u soo marin si toosa inaad ceelka aad gacmahaaga kaga cabto si toosa inaad macaanida u qaadato taas iyadaa waxay kuu suroobi kartaa ood rabbigaa khitaabkiisa dhegaysato waxay kugu suroobi kartaa taa iyadaa wey waxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah ee markaad doonayso inaad qur-aanka intifaacsato loo baahan yahay inaad qalbigaaga ka saarto ood ka nadiifiso ood ka dhaqdo waxyaalaha mawaanicda ee diidaya qur-aanka intifaacsigiisa waxyaala waxaa jira quluubta ku jira oo ruuxa haysta oo la yidhaahdo mawaanic oo xawaajis ah oo hor taaganoo ka celinaya qur-aanka manaafacaadkiisa inuu helo waxaa ka mid a waxyaabahaas kibirka iyo isla weynida kibirka iyo qabka iyo isla weynida hadduu ruuxu mar haddii qalbigiisa kibir iyo isla weynan galo manaafacaadka qur-aanka ilaahay ma siiyo tabaaraka wa tacaala allah wuxuu yidhi saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaq wain yarow kula aayatin laa yu'minuu biha wain yarow sabiila alrushdi laa yatakhiduuhu sabiila wain yarow sabiila alghayi yatakhiduuhu sabiila aayadahayga waxaan ka leexinayaa kuwa iskibriyoo dhulka isku kibriya aayadahayga dhinac baan ka marinayaa buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala xaqdarro dhulka isku kibriya hadday aayad kasta arkaanna ma rumaynayaan hadday jidka toosanee saxda arkaanna jid kama dhiganayaan oo ma qaadayaan hadday arkaan jidka qalloocsanna jid bay ka dhiganayaan oo way qaadanayaan sababtu maxay tahay aayadihii rabbi fahamkoodii iyo qaadashadoodii iyo intifaacsigoodii baa la garab mariyey maxaa keenay kibir iyo isla weynan baa ku jira nebigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi jannada geli maayo ruuxa qalbigiisa wax yaroo kibira uu ku jiray isla weynan markaasaa nin saxaabadii ka mid ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ruuxu wuxuu jecel yahay in maradiisuna quruxsan tahay kebihiisuna quruxsan yihiin ma taasaa laga wadaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alla waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay ee kibirka waxaa la yidhahdaa xaqa inaad diiddood ood celiso oo aad ku gacan saydho markaad ku yimaado kadib iyo dadka inaad yastood xaqirto dadka inaad dhalasho ku xaqirto iyo qabiil dadka inaad ku xaqirtood ku yasto calashaani muxuu ahaayey miskiinnimo iyo xoolola'aan dadka inaad ku yastood ku xaqirto madhabkooda dadka inaad ku yastood ku xaqirto midabkooda inaad ummadda u aragto inay kaaba hoosaysaba yacni waxa weeye waa gun waa dad liita waa kan adigana aad meel sare isla joogto ummaddana aad hoos u fiiriso taasi waxa weeye kibirka qalbiga ku jira waa qalbi sidaa u kibirsanna ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrkiisa iyo wanaagga iyo manaafacaadka qur'aanka iyo nicmadaa lama geliyo waa meel wasakhaysan meel wasakhaysanna durro iyo shay qiimo leh lama dhigo shayga qiimaha leh meel qiimo leh baa la dhigaa qalbi qiimo leh oo wanaag ku jiro oo tawaaduc ku jiro oo ilaahay khayr ka raba ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr ka geliyaa waxaa ka mid a waxyaalaha la doonaya inaad qalbiga ka nadiifisa haddaad doonayso qur-aanka inaad intifaacsato waxa la yidhaahdo itibaacu lhawa inaad hawadaada iska raacdo hawa raac hawadu waxa weeye ruuxu sida naftiisu rabto uunu iska dabagalo caqli iyo cilmi inuusan ku xakamaynin sidanaan rabaa naftiisu shay u sheegto unbuu rabaa naftiisa wax dhaca hadday tidhahdo wuu dhacaa wax dil hadday tidhahdo wuu dilaa khamrada cab hadday tidhahdo wuu cabbaa seexa hadday tidhahdo wuu seexdaa haddii wax alla wixii uu naftiisu rabto iska sameeya balwadiisu daacad u yahay soomaalidu siday tidhahdo waa mid balwadiisa daacad u ah haddaad hawada naftaada raacsan tahay qur'aanka manaafacaadkiisa ma helaysid maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaa xidhayaa meelahay wax kaa geli lahaayeen oo dhan baa lagaa qufulaya
sida rabbigan sheegay tabaaraka wa tacaala uu yidhi afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa wa adallahu allahu calaa cilmin wa khatama calaa samcihi wa qalbihi wa jacala calaa basarihi ghishaawah faman yahdiihi min bacdi illah afalaa tadakkaruun buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ka waran midka hawiisa ilaaha ka dhigtay naftiisu siday rabto uun iska dabagalo iska raaca yacni wax alla waxay u sheegto uun fuliya kaasoo naftiisa ilaah ka dhigtay iyo macbuud ka dhigtay bal ka warran baa layidhi allana lumiyey markaa calaa cilmin ku lumiyey maqalkiisa uu daboolay yacni qalbigiisana uu daboolay araggiisana uu dabool saaray indhihii wax ma qaataan oo dhegihii wax ma qaataan oo qalbigii wax ma weeleeyo oo waxba ma qabto sidaasuu marka xaalkiisu yahay madka sidaa alla u galay alla kasakow yaa hanuunin kara waa yaa hanuunin kara maxaa sidaasi ugu dhacdo qalbiga loo xidhay oo dhegihii loo xidhay oo maqalkii waxaan dhihi lahaa araggii loo saaray yacni daboolka loo saaray oo si kasta hadduu wax u arko uusan wax ugu qaadanin oo wuxuu maqlo uusan u qaadanaynin sababtu waxa weeyaan hawaraac buu noqday hawaraac hadduu noqdayna sidaasuu alla ugu abaalguday tabaaraka wa tacaala dad baa qur'aanku u wada yimid ayagoo wada dhashay buu u wada yimid hal guri ku wada nool buu u wada yimid dadkii qaarna qur'aankii waa qaateen qaarna waa diideen oo gaalnimay ku dhinteenoo naar ku galeen bal adugu kala saar wakaas ilaahay tawfiiqdiisa wey laakiin asbaab baa jirta rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku bixinayo siismada iyadaa macna marka kibirkaas iyo waxaan dhihi lahaa hawaraacnimada oo adiga wixii kula qumanuun aad yeesho wixii kula qumanaan waayana aad la dagaalanto waxay naftaadu rabto un aad diin ka dhigato waxay naftaadu rabinna aad tuurto ma saxbaa ma khalad baa ma toosan tahay ma qalloocsan tahay ma allaa raba ma raba miyaa waxaad rabto un inaad iska samaysood hawadaada daacad u noqoto taasi waxay ku seejinaysaa oo kaa qadinaysaa nicmadaa weyne ilaahay bixiyo tabaaraka wa tacaala oo qur-aanka inaad intifaacsataa waxaa ka mid ah waxyaabaha keena qur-aanka intifaaciisa inuu ruuxu waayo waxaa ka mid ah inba uu qur-aankiiba uu kula noqdo shay caadi ah diintiiba ay kula noqoto shay iska dabiici ah oo say waaye waxa weeyaan maalan dad badan islaamnimada waan ku dhalannay waanan ku dhaqannay waanan ku kornay wuxuu ka og yahayna ma jiro khalaas caadi bay u noqotay isagoo islaam buu dhashay isagoo mujtamac islaam buu ku dhex koray jaahilnimadaasuu ku koray iska abtir ahaan buu u noqday caadi buu u yahay waa iskala qabsaday sidaasuuba islaam saxa ku yahay wax haba yaraatee ka maqan inuu jirana maba rumaysnaba allah tabaaraka wa tacaala fi alqur'aani alkariim saxaabadii nebiga sal alay slam markuu qur-aanku soo degay wax yar kadibba waa la eedeeyey waa la canaantay saxaabadii nebiga sal alay slam allah wuxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wama nazla min alxaq walaa yakunuu kaaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamad faqasad quluubuhum wa kahiiru minhum faasiquun allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala sooma dhowaanin oo dadka mu'miniinta uma dhowaanin inay quluubtoodu khushuucdo oo dikriga ilaahay ay u khushuucdo iyo wixii xagga ilaahay ka soo degay oo aynan noqonin sida kuwii ka horreeyey oo hortood kitaabka la siiyey oo kale oo kadibna muddadu ku dheeraatay kitaabkii baa ku soo degay way arkeen way akhriyeen noloshoodii way iskala qabsadeen wax isbeddel wax cusubba umaynan arkin fadaala calayhim alamad maxaa dhacay marka faqasad quluubuhum quluubtoodii baa ingegtay marka wa kahiirun minhum faasiquun badankoodna waaba faasiqiin ilaahay ka baxay jidkiisa ka baxay waa sidaas daraaddeed wixiiba hadduu wax caadi waa caadi baa laleeya waa caadi war sidani maxay tahay war qur'aankii war intifaaciisa war islaamnimadii war aakhiradaadii waa caadi baa lagu leeyahy sheekh waa caadi marka waxa weye fadaala calayhim alamad cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyahay 3 sano kama soo wareegin mise 4 sano markii qur'aanku soo dego degiddiisa bilaabatay iyo canaantaasi xagga alla ka timid waqti yar baa u dhaxaysay buuri war quluubtii dadka mu'miniinta maxaa ku dhacay war see wax idinka yihiin war dikrigan maad u khushuucdaan war maad fahantaan war maad ku waana qaadataan war canaantaasi waxay imaanaysaa wax yar kadib bay imaanaysaa sidaas daraaddeed walaalayaal mas'aladu waxa weeyaan inaad ka saarto caadaysiga iyo wixii oo caadi kula noqday oo qalbi cusub iyo indho cusub iyo dhaga cusub
inaad qur'aankii ku qaabisho intifaacsigiisii ku hesho taa iyada aba waxay tahay arrinta kaleete ee laga maarmaanka oo ay muxuu ahaayey inaad ka saarto shaygii yani waa miday dhihi jireen cumar uu dhihi jiray islaamka waxaa guntin loo furi doonaa oo islaamka loo yaabaa markay ku dhex koraan dad aan jaahiliyadiiba garanayn gaalnimadii garanayn kufriga garanaynin diin xumada garanaynin islaamnimada untay ku dhex dhasheen uun isaga dhex barbaaray laakiin xumaantii gaalnimada iyo mabaadi'da xunxun iyo aan waxba ka garanaynin markaasaa islaamka loo yaabaa maxaa yeelay islaamka macaankiisii iyo qiimihiisii hadda waad arkaysaana ruuxa soo islaama oo diinta soo gala ruuxaasi oo gaalnimo intuu soo arkay iyo mugdigeeda iyo dulinimadeeda iyo cidhiidhigeeda iyo naxariistarradeeda iyo islaamka soo galo ruuxaasi ruuxii muslimka ahaan jiray diinta waa kaga adadagya haysigeeda iyo macaansigeeda waa u dhadhamaysaa laakiin kan ku dhex koree ku dhex dhashay haddana maca daalika wax walba caadi u noqday hadda waxa weeyaan manaafacaadkii baa ka lumaya kaa isaga shayga mar haddaad intaad iskala qabsato wax isbeddela kugu samayn maayo markaa isaga noloshii shay dabiici uu iska noqonaya marka yani ilfada iyo ictiyaadka in laga saaro qur'aanka kariimka ah ayuu u baahan yahay oo muxuu ahaayey fahamkiisa iyo qaadashadiisu si cusub in loo qaabilo u baahan yahay aadaankii baa dhow insha allahu tacaala aadaanka kadib baynu sii dhammaystiraynaa waqtiga yaree ka laaban aadaankii baa hadda dhacaya insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq asbaabtaasi walaalayaal iyo kuwa kale ayaa waxay yihiin kuwa ka qayb qaadan kara inuu ruuxu intifaacsado qur'aanka kariimka iyo manaafacaadka weyne ku jira iyo khayrka weyne ku jira asbaabtaa waxaa ka mid a qur'aanka kariimka markaad akhrinayso inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala magan gasho oo aad ka magan gasho shaydaanka oo ah midka sababta u ah in qur'aankii macnihiisii iyo camalfalkiisiiba lagu garab mariyo rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa ka qur'aanka inoogu sheegay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim qur'aanka markaad akhrinayso ilaahay magan galo shaydaanka ka magan gal rabbigaa tabaaraka wa tacaala weydiiso inuu sharkiisa ku garab mariyo oo muxuu ahaayey qur'aankan aad doonayso inaad fahanto akhrisanayso dhegaysanayso in manaafacaadkiisa iyo fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa inuusan ku garab marinin ninka ibliiska iyo shayddaankaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiiso allah ka magan gal tabaaraka wa tacaala waa qodob isagana muhim ah maxaa yeelay ibni aadamka intiisa hallowday ama luntay ama khayr weyday ama shar ku dhacday isagaa sabab u ah allah u carar tabaaraka wa tacaala oo marka kaga carar oo hoos gal rabbigaa tabaaraka wa tacaala asbaabtaa waxaa ka mid a walaalayaal loo baahan yahay inuu muxuu ahaayey ruuxa mu'minkaa aayaadka rabbi tabaaraka wa tacaala haddii xataa noloshu marka hore intay iyo shaydaan iyo qaataan ruuxu uu marka hore waxoogaa yara hallaabo ama ruuxu uu muxuu ahaayey xaaladdu ka yara hallowdo waa inuu ruuxu diyaar u yahay mar walba noqoshada waa inuu diyaar u yahay waa inuunu ahayn ruux ku madax adag xumaanta ku madax adag dariiqa khaldan mid ku madax adag waa inuusan ahayn waa inuu ruuxu awaab yahay oo noqosho badan yahay sida rabbigaan sheegay tabaaraka wa tacaala tabsiratan wa dikraa likulli cabdin muniib baa layidhi tabaaraka wa tacaala arrintaasi waxaa laga soo warramay waxyaalo fara badan oo ilaahay aayaadkiisa kawnigaa ka mid a lasoo sheegay markaasaa waxaa la yidhi tabsiratan waa tusmo la tusayo wa dikraa iyo waanin la waaninayo likulli cabdin muniib addoon kastoo noqonaya oo soo noqonayo markuu wax fahmo diyaar waa inuu dib u soo noqdo marka yaa intifaacsanaya oo maqlayo qaadanayo wax u taraysaa noloshiisa wax ka beddelaysaa likulli cabdin muniib
addoon u diyaarsan inuu laabto oo xaqa u laabto oo wanaagga u laabto oo aakhiradiisa u laabto iyo wixii danihiisa iyo masaalixdiisa aakhira ah laakiin addoon ay meel uga go'an tahay oo sida la yidhaahdo geeljiruhu asagoo usha meeshuu ka goyn lahaa garanaya ayuu wuxuu ku yidhaahdaa xaggeen ka jaraa macnaa meeshuu imaanayaa masaajiduu imaanayaa qur-aankii waa akhrinayaa waa dhegaysanayaa wacdigii waa maqlayaa haddana macdaligii oshiisu meel bay uga go'anta wuxuu samayn lahaa waaba usii qorshaysan yihiinba tiisuu iska wadanayaa kaa isagaa ma anfacayso laakiin waxay anfacaysaa addoon u diyaarsan oo muxuu ahay heegan u ah inuu noqdo oo khaladka ka soo noqdo marka inaad noqosho diyaar u tahay oo toobadkeen diyaar u tahay ood isbeddel diyaar u tahay markaasaa isbeddelku imaanayaayo intifaacii qur-aanka rabbi ku siinaya tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah asbaabta loo baahan yahay inaynu ku dadaalayo cawaamisha yacni kugu kaalmayn karta inaad qur-aanka intifaacsato in aad ka fogaato ama aad isaga ilaaliso dunuubta dembiyada ruuxu markuu badsado oo dembiga aad u galo oo xaaraanta cuno oo qalbigiisa munaafaqnimo iyo shaki iyo balaaya ka buuxdo oo muxuu ahaaye carabkiisu uusan ilaashanayn oo dadka dhiiggooda uu galo oo uu yacni zinada iyo qashinka iska qasto oo xanta iyo dadka wax ka sheegooda iyo xaqiridooda iyo sidooda oo qabyaalada iyo qashinka iyo fadhi ku dirirka uu badsado iyo waxa inuu qasto ruuxa noocaasoo kale ah dhibka ugu weynee gaadhaya waxa weeye qalbigiisa waxaa daboolaya mugdi iyo madow daxal madow baa qalbiga fuulaysa mar kastoo dembi gashana madowgaasi qalbiga waa ku dhalanaya kadibna qalbigiibaa daboolmaya sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ku sheegay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa daboolay oo yacni waxa weye isaga dhanba wada hadheeyey waxay kasbanayeen dunuubtay gelayeen xadiiskii nebiga sal ly sl xadiid abi hurayra buu nabigu ku sharxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi addoonku markuu dembi galo dembigaa uu galay dhibic madow baa qalbigiisa ku dhalanaysa hadduu ka toobad keenoo markaaba ka soo noqdo dhibicdii waa la tirayaayo waa la soofaynayaayo waa laga hagaajinaya haddiise uu ku noqdo dembigii isagoon ka toobad keenin dhibic kalea haddana ku garab dhalanaysa haddana tu saddexaad baa ku garab dhalanaysa ilaa qalbiga kulligii wada madoobaado waana miduu ilaahay qur-aanka ku sheegayoo kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun adiga dhibka ku haysta qur-aankii kuuma dhadhamayo ma macaansanaysid jus ma akhrin kartid kadeed baa ku haysta ma dhegaysan kartid tafsiirkiisa ma maqli kartid maxaa ku haysta balaayadu xaggay kaa haysataa qalbigiibaaba madow waa mugdiba iftiinkii uu qur-aanka ku qaabili lahaa qalbigii ma leh dunuub baa madoobaysay muxuu baayahay marka inaad dhaqdo inaad nadiifiso inaad hagaajiso ka toobad keento dunuubta ka fogaato ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigaaga markaa nuuriyo nuurkaasi qalbiga ka baxaya ayaa qur-aanka waxyiga iyo qur-aanka intifaaciisa soo jiidanaya oo qalbigii marka sidaasuu ku qaadanaya ku helaya dunuubta marka inaad iska yarayso oo ama aad iska badayso haddaad ku dhacdana ka soo noqotood ka toobad keento asbaabta kugu kaalmayn bay ka mid tahay inaad qur-aanka intifaaciisa hesho waxaa ka mid ah waxyaalaha keeni kara inaad mawcidada iyo waanada intifaacsato oy wax kuu tarto oy wax kaa bedasho yacni in aad nolosha aadan dheeraysanin waxa la yidhaahdo qasrul amal wa tadakuru alaakhira inaad yididiilada soo gaabsato aakhira xusuusteedana badsato geerida inaad dhimanayso xusuusteeda badsato inaadan noolaanaynin inaad xusuusteeda badsato inuu qabri kaa dambeeyo oo noloshani dhammaanayso inaad xusuusteeda badsato guryahaad dhistay ku noolaan maysid oo xoolahaad tabacday sii cuni maysid oo carruurta iyo reerahan aad hagaajisay sii wada joogi maysaan oo hawshani mid sii jiraysa ma aha waa habeen dhax mid kalea kugu xigtoo nolol la yidhahdo xayaatulbarsakh qabri baa yaalla waad joogi maysida waad soo bixi doontaayoo nolol cusub oo kalea loo soo bixi doonaa war waxaasoo dhan baa soo socdee niyow maxaa kuu diyaara maxaa akownka kuugu jira maxaa si kaa ah seed isku daba qabataa haddii aad arrintaa xusuusteeda badisana shaki waxaan lahayn in intifaacsiga waanada iyo qur'aanka iyo
aad dib ugu soo noqonaysa maxaa yeelay hawadan ku wadata ayaa kaa khafiifaysa yacni mawjadan aad saaran tahay ayaad hoos u fiirinaysaa filinkan kuu daaran ayaad fahmaysaa xaqiiqadiisa aad garanaysaa sidaas daraaddeed ayaa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi muxuu ahaayey xusuusta aakharo badiya oo geerida xusuusteeda badiya qalbigiinaa jilcaya ishuna waa ilmaynaysaaye ishu way ilmayn qalbiguna waa jilcaya waanadiina diyaar buu u noqonaya sidaas daraaddeed baa loo baahan yahay in aad arrintaa iyada ah allah tabaaraka wa tacaala nebiyadiisu ku ammaanay innaa rasnaahum bikhaalisatin dikra daar buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala xusuusta daarta aakharo ayaanu saafi iyo khaalis uga dhignay buu rabbi tabaaraka wa tacaala waxyaalaha aad mawcidada qur-aanka ku heli karta iyo kansiga iyo kaydka qur-aanka ku jira ehelkiisana aad uga mid noqon karto ayay asbaabtaasi ka mid tahay allana tabaaraka wa tacaala dhammaanteed wuxuu ku kulmiyey aayadda qur-aanka inna fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid afarta arrimood ee arrimaha ugu muhiimsanba aayaddaasaa lagu kulmiyey almu'athiru almuqtadi waalmaxallu alqaabil lilathar muxuu ahaayey wa tawafuru shart waintifaa'u almawaanic intuba aayaddaasay ku jiraan sida yacni alcallaamatu ibnulqayim caleyh raxmatullah uu ku faahfaahiyey oo u kala dhigdhigay marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala walaalayaal qur-aanka macnihiisa inuu ina siiyo oo kansigiiyo kaydka ku jiriya khayrka ku jira rabbi tabaaraka wa tacaala inoogu deeqo oo allah tabaaraka wa tacaala ku camalfalkiisa uu ina siiyo oo rabbi tabaaraka wa tacaala nolosheenna midka wax ka bedela ka dhigo aakharana midka inoo shafeeca uu ka dhigo ehelka qur-aanka iyo dadkiisa rabbi tabaaraka wa tacaala inugu daro allah baan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala jumuudka iyo ingegnaanta iyo qallafsanaanta iyo calaaqa xumada innaga iyo qur-aankii inaga dhaxaysana rabbi tabaaraka wa tacaala inuu inaga saaraan weydiisanaynaa wakhtigu intaa ka badan ma saamaxayo salaaddii subax baana noo joogta oo insha allahu tacaala aan geli rabnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo hana idinku anfaco waxaad dhegaysateen annagana tabaaraka wa tacaala abaalgud ha naga siiyo wixii khaladna ha naga dhaafo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekhana khayran su-aalo dhowr ayaa halkan ku hayaa su-aasha u horeysa sheekhan wadaadkan waxa uu leeyahay gaari ayaan gadanayaa gaarigana waxaan ku heshiinay lacag qadar ah waxaana uu leeyahay ninka aan ka gadanayo haddii xilligeedii loogu talagalay la dhaafo waxaa fuulayaa ribo oo maaragtay interest ayaa fuulaya marka haddii marka u horeysa lacagta aan wada dhammaystirana yacni wax uu iga rabo oo ii raacanayo ma lahan laakiin qiimihii aan ku heshiinay oo uu wax ku daray oo qiimihii markaan kaash ahaan u siin lahaa yacni ka ziyaado ah haddii wakhtigii la gaaro oo uu markaa iga dhammaan lahaa oo aanan soo dhammaystirin lacag kaloo ziyaado ayaan ku saaraya ayuu leeyahay isagoo markii hore asal ahaanna yacni ziyaadiyey arrinta ayada sheekhow يعني ما قال لك كونتراكتيغا مع عقديغا اسغا ساسو لي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم مسألة waxa weeye heshiis wax lagu deynsaday deynta markii la qaadanayayna waxa kala badan lacagta kaashka shayga lagu iibinayo markii kaash tahay iyo qiimaha marka deynta lagu qaadanayo tii deynta in lagu qaataa lagu heshiiyey kadibna waxaa ku jira heshiiska shardi dhahaya haddii aad wakhtigii ku dhammaystiri weydo waxbaa siyaadaya oo siyaado kala imaanaysa sidaas hadday tahay heshiisku waa heshiis wata ama caqdigu waa caqdi wata shardi ribowi ah shardiga dhahaya haddii aad wakhtigeeda ku bixin weydo siyaado iyo dulsaar baa bilaabanaya shardigaasi waxaa la yidhahdaa waa shardi ribowi ah waa shardi ribo ku abtirsado oo ribo keenaya maadaama uu caqdiga ku xidhan yahay shardi ribana caqdiga dhan baa baadil noqonaya waa siday qabaan jumhuurtu qabaan
iyo culimmada badankooda marka heshiiskii hore idin dhex maray baan shareecada waafaqsanayn oo macnaheedu ma aha uun hadhow iska ilaali uun siyaadadu waysan imaanin ka taxadar keliya meehe heshiiskii horaaba buray oo wixii idin dhex maray baa shareecada khilaafsan heshiisku hadduu buran oo shareecada khilaafana waxa ka dhasha wuxuu noqonayaa waxaan shareecada waafaqsanayn oo adigana shaygii aad iibsatay sharcan ma aadan si sharciya ku milkiin isaguna lacagtuu qaadanayo si sharciya kumuusan qaadanin arrinta dhan baa marka asaaskeedu khalaya sidaas daraaddeed sharcan ma u bannaana wana caqdi ribowi ah oo shardi ribowiya wata ribaduna dee waad garanaysaan meesha shareecadu ay dhigtay in ilaahay dagaalkiisa aad gelayso oo dagaal kula gelayo iyo inay dunuubta waaweyn oo xataa zinada iyo dunuub badan ka weyn oo nebigu uu kala mid dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidii nin hooyadii u galmooday oo kale walciyaadu billaah ribada noocyadeeda ugu dembi yar ayaa dembigeedu heerkaa gaadhayaa marka caqdigaasi caqdi saxsan ma aha wixii ka dhashayna wix saxsan ma aha wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء. سؤال اللباد شيخو waxaan u shaqaynaa ayuu leeyahay wadaadkan company ayaan waxaan u wadnaa baabuurta companyga asaga ah wuxuu naga rabaa oo uu nagu celceliyey noona sheegay inaan galno oo aan qaadano kaarka caafimaadka yacni waa insurance caafimaad qofka jirkiisa iyo caafimaadkiisa iyo haddii wax ku soo gaaraan shaqada iyo wixii la midka ah muxuu ahaa intuu baabuurku u wado kaarka caafimaadka marka يعني ما قادن كرنا أو إنشورنس سجاس عن عافمات كان قلنا إنه ما سمين كرنا ولا تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنشورنس سجا أما وحل إلى ذو عايمسكا أصلهان شرعه ماي أو جلا وميت كان هذا الاستعماله أو عالم كله يقانو أو لو يقانو إنشورنس سجا جناح سجا noocyaad jira shareecadu ay ogoshahay oo caalamka aad joogtaan kulli aan laga isticmaalin oo iyagana caymiska ka mid ah laakiin meesha aad joogtaan noocyada laga isticmaaleen kulli caalamiyan garanayo wax shareecadu waafaqsan tahay ma aha maxaa yeelay riba ku jirta labadeeda noocba way ku jirtaa riban fadli riban nasii'a labaduba waxyaalaha ku jira jahaaliya qarar baa ka mid ah aklu amwaali naasi bilbaatil baa ka mid ah dadka xoolahooda bilaash lagu cuno waxaa ka mid ah muqaamaro iyo nooc khamaara ka mid oo ku jira waxyaalahaasoo dhan iyo asbaab badan oo ayaa jira oo keenaya inuu xaaraam noqdo inshuransigu si guud midkan caafimaadka oo muxuu ahaaye health insuransiga la yidhaahdo muxuu ahaaye isaguna nooca unbuu ka mid yahay laakiin waxaa la kala qaadayaa dhowr arrimood waa midda koowaad ee horta hadday tahay yacni hay-adda inshuransiga iska leh ama kambaniga inshuransiga iska leh hadday dowladda tahay oo dowladdu ay ugu tala gashay inay dadka ku caawiso waxa la gelayana isaga uu yahay barnaamij ribix iyo ganacsi loogu talagalayna aan ahayn ee ay tahay dowladdu inay caawiso dadkeeda waxna ruuxii uu iska bixiyo waxna iyada dowladdu kabto inshuransiyada noocaas oo kale dowladaha qaar baa iska leh hadduu kaas yahay waa midka la yidhaahdo muxuu ahaayey at-ta'miinu al-ijtimaaci baa la yidhaahdaa ama ad-damaanu al-ijtimaaci baa la yidhaahdaa kaasi dhib ma leh oo cidina kama ganacsanayso cidina kama faa'iidayso dowlad raciyadeedii iyo dadkeedii uun caawinaysa qaabkay ku caawin lahaydna ay tahay dadkuna wax inay baxsadaan waxna iyadu ku kabto noocaasi hadduu yahay wax mushkila ah ma leh hadduuse yahay nooca kambaniyada brivatka ah ama kambaniyada khaaska ah ee ganacsiga iyo ribixa u jeeda hadduu yahay sharcan ma bannaana saan horeyba usoo sheegay iyada lafteeda waxaa la dhahayaa marka loo kala qaadayaa haddii nidaamka meesha ka jiraayo uu qasbayo oo dowladdu ay qasbayso inshuransiga noocaasa xataa midkaa aan bannaanayn kambaniyada brivatka ay leeyihiin muhiimadiisu ay tahay ribix iyo ganacsi in laga helo hadday kaa laftiisa nidaamka jiraayo uu dadka ku qasbayo oo ilaa wa ilaaba aan lagu qasban yahay daruuro ahaan bay markaa gelaysaa
sida maalan meelaha nagan oo kale insuransiga baabuurta oo kale ay jidka ku marayso midkan oo comprehensiveka ma aha ama midkan la yidhaahdo shumuuliga ma aha laakiin mid third party la yidhahdaan annaga ku qasbannahay oo dowladdu wada qasabtay oo ay kusoo rogtay baabuurba inaan la dhaqaajin karin saasoo kale marka hadduu yahay oo dowladda iyo nidaamka jiro uu qasbayo daruuro ahaan bay markaa dadka ugu bannaanaanaysaa haddiise laakiin uu yahay mid khiyaarkaaga furanya oo adugu khiyaarkaaga aad ku gelayso khiyaarkaagana aad ku diidi karto cidinana ayna kugu qasbaynin laakiin waxoogaa waxaa kaaga xidhantay ama shaqaa kaaga xidhantay ama ganacsiba kaaga xidhmay waadna ka wareegi kartaayoo opshino kaliya khiyaaraad kale aad heli kartaa marka iyada ah gelitaanku xaaraan buu noqonayaa mana bannaana arrimaha aan soo sheegnay darteed bayna u bannaanayn masaladu marka tafaasiisheeda iyo faahfaahinteedu waa sidaas wey billahi tawfiiq jazakallahu khayran sheekhana shaas kale ee saddexaad wadaadkan wuxuu weydiinayaa aabbahay baa waxaa lagu lahaa buu leeyahay caqiiqa oo yacni cunug odayga aabbahay uu dhalay ayaa geeriyooday isagoo saqiir ah kadib odaygii isagoo aan weli caqiiqadii ama waxaan ay yidhaahdaan maarata soomaalida waqlalka aanan samaynin ayuu isagiina geeriyooday kadib annagii hadda ma waxaa nala gudboon oo na saaran inaan caqiiqada odayga uu ka tegay ee lagu lahaa aan ka gudno maxayse tahay yacni annagii naftirkeena maadaama uusan caqiiqo naga bixin xukunkeeda falyatafadal mashkuura bismillaah caqiiqada horta iyo wanqalka ilmaha sharcan waxaa lagu leeyahay waalidkaa lagu leeyahay asaalatan waalidkaa lagu leeyahay nebigana sal alla alay wasalam waxaa ka sugan inuu amray ilmaha in laga caqiiqeeyo oo laga wanqalo waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi ilmuhu wuxuu u dabran yahay ama u xidhan yahay wanqalkiisa caqiiqadu marka culimmada badankood waxay qabaan jamaahiirtoodu inay sunno tahay oo ayna laasim waajiba ahayn qaarna waxay leeyihiin haba iska tira yaraadeene waa waajib bay leeyihiin maadaama ay sidaas tahay haddii waalidkii xaqii noocaas ahaa ee ilmihiisu ku lahaa uu gudi waayey oo uu sidaa kaga tegey dadka ka dambeeya muxuu ahaayey ama carruurtiisii ama dadka ehelkiisii ah hadday ilmaha noocaasa u wanqalaan wax dhiba ama baasa uma arko culimmada qaarkoodna waa qabaan hadduu ruuxii weynaado isaga laftiisa oo uusan waalidkiina ka wanqalin laftiisu inuu iska wanqalana wax dhiba ma laha oo xadiis baa jira culimmada qaarkood bimajmuuci turuqihi ay ku taxsiininayaan oo xadiiska dhahaya nebigu sal alla alay wasalam caqa can nafsihi bacda albictha nebiga markii la soo saaray kadib oo nebinimadiisa la diray markaa kadib ayuu naftiisa ka wanqalay yacni 40 jir wixii ka dambeeyey bay ahayd sidaas ayaa xadiis noocaasa tilmaamaya walow sixadiisa lagu muransan yahay marka xataa yacni bina'an calaa hada alxadiid culimmada qaar baa qaba xataa ruuxu hadduu weynaado uu ogaado inaan laga wanqalin inuu naftiisa isagoo weyn ka wanqali karayo masaladu marka sidaas weeye wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayran su-aasha waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh nuxibuka fillah waxaan ku weydiinayaa sheekhana halkan baryahan waxaa nugu soo batay marsiga ama dadku inay marsadaan rag iyo dumarba yani cilaanka noociisa madow ama balaag xina arrinkaa isaga sheekhana ma bannaan yahay bismillahi raxmaan raxiim horta nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan in uu ku tilmaamay cirada ruuxa mu'minka ah waa nuurkiisii buu nebigu uri sal alla alay wasalam ruuxa hadduu muslim yahay diinka islaamka iyo muslimnimada dhexdeedana ku weynaado oo ku ciroobo ciradaasi waa iftiin iyo nuur weeye ilaahay agtiisana tabaaraka wa tacaala macno weyn bay ku fadhiyadaa saa daraaddeed in la tifo oo la jaro la gooyo timaha laga dhex jaro taa iyadaa waa diiday nebigu sal alla alay wasalam oo yaan la tifin buu yidhi cirada laakiin waxay shareecadu tidhi cirada ha la bedelo oo ha la bedelo midab ha lagu bedelo
midabka lagu bedelayo ayaa haddana waxaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood xadiidkii saxiix muslim nabigu sallallahu alayhi wasallam muxuu ahaayay timihiisa bedela odaygii timihiisu cadaadeen madowgana ka dheereeya oo madowga ka ilaaliya xadiid kale jira oo ay culimada in badan saxiixinayaan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka dad baa imaan doona oo ku cilaamanaya madowga sida shimbirta qooleyda gulgulaheedoo kale madow muxuu ahaayay dadkaasi jannada carafteeda heli maayaan xadiiskaasina waa soo arooray xadiiskaasi dhahaya marka ka fogeeya madowga iyo xadiiska kale ka dambeeya ayay culimada in badan oo kamid ah u xujayaan oo u daliishanayaan inaan madoobaysada la marsan karin ama adigu cilaan ku magacow ama magac kale u bixi muhiimadu waa midabka weey macno weyn ma sameynayso kambaniyada qaarkood oo hadda intay soo saareen projectiyo ay ku magacaabayaan muxuu ahaayay xinna madow ay ku magacaabayaan magaca xinna in la siiyo macno weyn ma bedelayso laakiin muhiimadu waa midabka weey midabku hadduu madow yahay ixtiyaadku wuxuu ku jira iyo dadaalku in laga fogaado masaladuna waa masala khilaafiya waxaana la isku haystaa axaadiista sugnaanteeda iyo sugnaan la'aanteeda xataa lafdigaasi saxiix muslim ku yaala wajannibuuhu sawaad yacni culimmada qaar baa shuduud ku tilmaamaya xadiidka kalena qaar baa haysto sixadiisa ku dheggan saas daraaddeed baa waxay tahay cinda salaf walkhalaf walmucaasiriin waa masale khilaafiya ah weeye laakiin kollay dadaalka iyo ixtiyaadka iyo waracu wuxuu ku jiraa in laga fogaado muxuu ahaaye madowga laga fogaado midabada kale la isticmaalo wabillahi tawfiiq جزاك الله خير شيخنا سؤال كله waxay leedahay gabadha waxay weydiinaysaa haweeneyda hadii ay ciidadii ku jirto ninkii ay xaqiisa ka ciidad tirsanaysayna uu joogo meeshii oo markaasina xaaje iyo dan ay u gasho inay baxdo oo ay safar aado labadoodii misraaci karaan zawjkii xaqiisa ka tirsanaysay يعني مارتي وين كيسا عدده بسم الله الرحمن الرحيم arintaasi waxay ku xiran tahay furiinka noociisa hadduu furiinku yahay dalqadii koobaad ama dalqadii labaad oo nooca loo yaqaana talaaqa rajciga ah yani dalaaq ama furitaan ninka ay u furan tahay inuu xaaska soo ceshan karo waana dalqada labaad koobaad markay dhacdo iyo dalqada labaad markay dhacdo labadaaba fursad iyo jaanis uu ku soo ceshan karo hayaa marka dalaaqa noocaas rajci baa la yiraahdaa dalaaqa dhexmaray hadduu nooca yahay culimadu waxay qabaan haweeneyda ku jirta ciddada rajciga ku jirta oo ciddada ninkeedii uu soo ceshan karo ku jirtay xaas oo kale ka dhigan tahay sidaas daradeed bay guriga wada joogayaan in badan oo taabiciinta kamid iyo culimadu waxay leeyihiin gogol wada seexan maayaan laakiin gurigay wada joogayaan iskamana yani xijaabayso iskama asturayso wakadalika hadday safar gasho maxram uu u noqon karaa lianna waxa weeyaan xugum zawj buu leeyahay xugumkii ninkeedoo kale uu leeyahay ilaa ay ciddada ka baxdo maadaama gurigii inay wada joogaan oo isla joogaan oo khalwo ayna ka dhacaynin ay meesha muxuu ahaayey ay ku jirto maxramnimadiina iyadana waa la mid oo muxuu ahaayey maxram uu u noqon karaa xaaskiisii oo kale ay ka dhigan tahay haddiise nooca furitaanku uu yahay dalaaqa loo yaqaano adalaaqul baa'in furitaanka dalqadii ugu dambaysay ay ku dhammaatay oo ninku markaa jaanisku noqosho uusan lahayn dalaaqu hadduu nooca yahayna mar alla markay dalqadu dhacdaba ninkii iyo haweenaydii ajnabi bay kala yihiin xataa iyadoo ciddada ku jirta kuma noqon karo xaasna uma aha maxramna uma noqon karo lama safri karo lama deganaan karo maxaa yeelay markaa ajnabi bay kala noqdeen xataa waxay culimmadu leeyihiin oo ay tilmaamayaan isla masaladaa lafteeda ninka afarta dumarkaa qaba haweenay mid ka midana furay afartii middaa uu furay intay ciddadii rajciyada ku jirto ciddadii lagu soo ceshan karay intay ku jirto naa kale ma guursan karo maxaa yeelay xaaskiisii oo kale ay ka dhigan tahay
kaana waxay ka dhigan tahay isagoo haweenay shanaad guursadoo kale noqonaysa marka waa meesha la yidhaahdo raggu hal mar bay ciddo galaan baa la yidhaahdaa sida dumarkoo kale hal mar bay raggu ciddo galaan halka mar ay ciddada galaan waxaa la yidhaahdaa waa markuu haweenay afraad intuu furo saddexna uu qabo iyaduna ay ciddadii rajciyada ku jirto ciddo uu ku soo ceshan karo ilaa ay ciddadaa ka baxdo guur kale ma samayn karo booskeeda mid kale ma gashan karo arrintaa iyadaa marka waxay tilmaamaysaa sidaasaa loo kala qaadayaa hadday dalqadihii dhammaadeenna waa ajnebi oo maxram uma noqon karo hadday dalqadihii laaban yihiinna in wax laaban yihiinna intay ciddada ku jirto xaas oo kale ka dhigan tahay oo maxram wuu u noqon karaa wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا سؤاشا waxaan leedahay sheekhana waxaan rabaa inaan ogaado waxa shareecada ka qabto dumarka inay raacaan janaazada wala tafadhal mashkuur bismillaahir rahmaanir rahiim janaazada inay dumarku raacaan oo ay aaska ka qayb galaan waa mas'ala khilaafiya bayna ulama xadiis baana ku soo aroortay masalada lagu kala aragti bedelan yahay culimada qaarkoodna waxay leeyihiin ma tegi karaan oo waxa looga baqayaa bay leeyihiin oo iska qalbi jilicsan yihiin marka inay oohin iyo baroor iyo waxa loo baahnayn iyo argagax iyo meeshaasi inay muujiyaan iyo wax shariicada khilaafsan baa la diidayaa qaarna waxay leeyihiin muxuu ahaayey inay uun badsadaan oo ay ku noqnoqdaan baa la diidan yahay mooye haddayna badnayn dhib ma laha bay tilmaamayaan axaadiista soo aroortay bayna macnahaasi loo kala fahmayaa laba gooraba waxay ku fiican tahay mar damboo aasku dhacay inay tagaan oo soo siyaartaan qabriga nebiga sal alla alay wasalam wuxuu lacnaday lacana allahu zuwaaraati alqubuur lacnada ilaaha ku dhacda dumarka aad qubuurta u siyaarta waxay tilmaamaysaa inaan loo ogola inay aada ugu noqnoqdaan laakiin inay hal mar siyaartaan ama waqtiyo aada u kala fogoon badnayn inay siyaartaan taasi waxay ka sugan tahay xadiidu caaisha fi saxiix muslim iyay ku sugan tahay nebiga sal alla alay wasalam ay ku tiri rasuul ilaahi oo maxaan idhaahdaa markaan qubuurta siyaarto kadibna waxay dhihi lahayd buu nebigu u sheegay sal alla alay wasalam ma siyaaran kartay muusan dhihin marka aasku markuu dhammaado kadib hadday soo siyaaranayaanoo u soo ducaynayaanoo soo arkayaan oo ayna badsanaynin wax dhiba ma ay laha laakiin ku noqnoqoshada faraha badan ee lama ogola wabillahi tawfiiq jazakallahu khayran sheekhana su-aashan gabadhan waxay leedahay sheekho nin baa isguursanay kadibna isagoo aan ila aqalgelin ayuu isoo furay in muddaa kadib anigu nin maanan guursan bay leedahay kadibna waxaa dhacday inuu haddana dib ii soo doontay kadib markuu meherkayga siiyey kii hore haddana waalidkaygii buu dib ugu soo laabtay sheekhow xaaladda ayadaa ka waran bismillahi raxmaan raxiim haweenka haddii inta la guursado intaan lala aqalgelin la furo furitaankaasi waa dalqo saddexdii dalqaba dhammaynaysa wey bimacnaa waxaan ka wadaa waa dalqa baa'ina waay waa dalaaq baa'in ah oo haweenayda aan lala aqalgelin oon la arkin oo xadhigga keliya inta lagu xidhay kadibna la furay wax cidda a ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati huma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha wax ciddaa oo idiin tirsanayaan ma jiro haddaad furtaan intaydaan taabanin cidda haddayna tirsanaynin bimacnaa way u dhammaatay wey culimmadu marka waxay ka hadlayaan way u dhammaataydaasi iyo ciddo ma ay lahaa oo markii sidaa loo furaba horay bay ka guursan kartaa macnaheeda maxay tahay dalqadihii saddexdii ma wada dhammaadeen oo markaa ninkana ilay soo marta mooyee isma guursan karaan miyaa mise dalqadihii ha dhammaadeene oo ciddadeedii waxaan dhihi lahaa ciddadii ha ka baxdee
dib way isu guursan karaan miya waxay kala qaadayaan culimada in badan oo kamid ah ninku qaabku haweenta u furay hadduu markuu furayay saddexdii ku furay oo yidhi saddexdii baan kugu furay sidaa uu ku sii daayay haweenayda aan weli loo galmoonin saddexdeeda dalqadood way israacaan bay qabaan culimo badan mar hadday dalqadihii israaceen oo saddexdii dhammaadeenna nin kale ilaa ay soo marto guurkoodu ma asaxayo ismana guursan karaan haddiise furitaanka iyo qaabku ay tahay waan ku furay bas ama dalqad baan kugu furay ama labaan kugu furay oo dalqadihii saddexdii uusan dhammaynin hadday tahay uusan israacinin hadday suuradu iyo sidaas tahayna haweenayda waxay ku tegaysaa muxuu ahaayey dalqadihii oon dhammaanin qaab noocaasuu ku furitaankeedu noqonaya wabitaali waxaa furan bay leeyihiin in ha dhowto hadday isu baahdaan ay isguursan karaan oo guur cusub ah oo doonitaan cusub ah oo siin cusub ah aan wixii hore waxba ka jirin waa haddii dalqad lagu furay ama laba lagu furay ama aan waxba la sheegin waan ku furay hadday ahayd dib way iska guursan karaan haddiise uu yidhi saddexdii baan kugu furay markaas ilaa nin kale ay soo marto ma uu guursan karayo tafsiilkaasaa waxaa gelinaya masaladoo saa u kala dhigaya culimmada salafka in badan oo ka mid ah iyo fuqahadii qaar badan oo ka mid ah iyo mutaakhiriinta in badan oo ka mid ah maraya sidaasaadna moodaa masaladu inay u eg tahay wallahu aclam رالي هذا وحان ما يكن نجا حرنا شيخنا جزاك الله خيرا سؤال waxay leedahay waqtiga nahyiga ah ee aan salaadaha sunnada ala tukan hadii qofka uu masaajidka soo galo salaadii ma tukanayaa tahiyatu masjidka ahayd mise wali nahyiga waqtigiisa ayaa taagan oo taas uu kaga joogsanaya مثلا qoraxda sii dhici rabta ayada ama marka ayada soo baxday oo kale qofkii masjidkii uu soo galay muxuu sameeyaa xaaladaas بسم الله الرحمن الرحيم لبا حديث با ميشاسي محو اهاي كسو اروري حديث هو حديث كدهايا مساجد كمركاد قشان هفريسانينا الى الله ورقعدو تكتان او صحيحين كي غير كود كيمت وحو تلماميا وقتي كستود قشان هفريسانينا الى تكتان با لغا فهميا مانا اوسن كلا قادين او قاده حديث كان كهدليا waqtigana awqaada qaar kamida dhahaya lama tukan karana asaguna waa xadiis kale oo wuxuu diidayaa isagoon tahiyatul masjid gooni u sheegin salaad kalena gooni u sheegin ayuu si guud wuxuu leeyahay waqtiyada ha tukanina salaad aan farad ama waajib ahayn waqtiga qorraxdu soo baxayso iyo waqtiga ay sii dhacayso iyo waqtiga ay ku taagan tahay samada bartamaheeda oo duurka wax yar ka hora iyo casarku markay isbedesho oo qorraxdu oo muxuu ahaay iftiinkeedii iyo kulaylkeediiba uu isbedel ku dhaco wixii ka dambeeya xilliyadaas oo dhan waa xilliyadan nahyiga la yiraahdo marka labada xadiis ee ku soo kala aroortay waafajinteeda culimadu ku kala aragti bedelayeen labadooduna waxa la yiraahdaa waxa ku jira umuum midba dhan buu caam u yahay iswaafajintooda marka sida uu imaam Shaani alayhi rahmatullah uu leeyahay aad markuu uga niqaashay wuxuu leeyahay waxay kamid tahay min al-madaayiq yaani meelaha ciliiliga ah oo aad ay u adag tahay sidii looga lug bixi lahaa bay kamid tahay buu masaladani markuu aad uga niqaashay kadib almuhim waxa ila xoog badan masalada madhabka al-imaam Shaafi'i alayhi rahmatullah iyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah iyo ay rajaxayaan oo dhahaya tahiyatul masjidka waa la tukanaya waqtiyada karaahada masaajidka hadaa soo gasho waa tukanaysa oo waxay leeyihiin waa salaad sabab leh ha tukanida waqtiyada karaahada ee la diidayna waxa laga hadlayaa salaadaha aan sababka lahayn sunanka mutlaqa la yiraahdo ayay ku saabsan tahay tan tahiyatul masjidkuna waa salaad sabab leh haday janaaza timaado ruux dhinto waa la tukan waa salaad sabab leh haddii aad masaajid gasho
وتحية المسجد والسبب تبع لهلاي ولا تكن وهكذا حليضا نوع عصو كلا هدي سبب صلاة سبب لأي تماده ولا تكن حتى حليضا يدا أما وحل الديدين هاي لليها تكننا وصلاة أن مركز سبب لهين والسنة سبب كان سنة أين تشيرين أو سبب تيدي أين إيمان أو وحل لو يقانو سنوين كمطلقة لو يقانو والروح isagu iska badsanayo sunanka faraha badan ee waqtiga lahayn leesnay sabab muayyan oo shariicadu u sheegtay aynan jirino sunnooyinka mutlaqa way waxa la diidan yahay waqtiyadaas ama salaadaha sabab kale sunnaba ha ahaadeen waqtiga isaga waa la tukan kara sidaas ay isku waafajiyeen Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah waxa ka horeeyay al-Imam Shafi'i iyo ayma kale saasana ila xoog badan wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء شيخنا لبدا سؤال ودبيس ان شاء الله سؤاشن waxay leedahay maama waalidkay ah ayaa waxay mar walba igu qasabtaa in xus ay abaabuleyso aan ka qayb qaato xuskaas oo ah macnaha yaani awowiyadii iyo ayooyinkii dhintay in la xuso sanadkiiba mar xuska asaga ah oo ay igu boorinayso inaan ka qayb qaato oo lacag haday tahay maaragtay maamulkii iyo isku dubaridkii iyo wax karintii hadii aan diidana marka aan ka baqayo waalidkii iyo maaragtay caasintiisa sheekhow maxaad igula talin lahayd arrinka asaga ah falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم والدكو هورتا حق بو ليهي حقي سناءات بو اوين يهي الله تبارك وتعالى قرآن كريم كدحديسة حق الله تبارك وتعالى وحقوق ذا شرت أقوين وحقوق حجيا ودبردقا حق لبدا والد آيات بدن القرآن ككملة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك الله تبارك وتعالى آياتك وحو كتل ماميا حق لبدا والد سيدا او أدق يهي أما او علوس يهي خاصهان حقه يدا يساو كمسي جيرو إيو أيوين يوحي كسي كوريا حق والدك أولي يهي مركا لسينا يو او إن لو إحسان سميو إن باري لو نقضو إن محو أهاي لغور هايو إن هذا الكود لما قلو إن اللعاسين إن اللقو أمر ديدين إن لحنانيو خاصة مركي دقوبان ودقوبان وشلعان أيضو مركاسي وحويان وابا هالسبا ويكسي حق شرتا إن محو أهاي حقوق دا والدك أولي هاي وحا لفولينيا أما الله إلالينيا إنتيسان اسكود عن حق ألا ليه هاي تبارك وتعالى حق ألا ليه هذا اسكود عن حق إلهي باهو الرئي مركا ومثل مسألة ليه هاي wax shareecada khilaafsan oo ilaahay uu sarraali ka ahayno alla diiday ama waajib alla waajibiyay ka tagitaankiisa ama xaraam shareecadu diiday samayntiisa waalidku hadduu ku faro lagu adeeci maayo maxaa yeelay xuduudiisii uu markaa gudbay oo xaq ilaahay buu u gudbay xaq ilaahay baana ka horeeya xaq waalidka marka wixii shareecada khilaafsan lagu adeeci maayo xuska iyo isu imaadka iyo awowyada iyo meeytida iyo mawliidka iyo waxan la sameynayana wax hadyigii iyo sunnadii nabiga waafaqsan maaha kitaab alliya sunna nabina way khilaafsantaa iyo hadyigii saxaabada iyo salafka sidaas daraadeed waxyaabaha noocaasa ka qayb qaadadkoodu markay ugu yartahay ama waa bidco aad ka qayb gashay ama heer shirki bayba gaari kartaa oo waxyaabaha lagu sameynayo marar fara badan wax diinta lagaga baxo shirkiyaada ku jira oo yaani aad u fara badan laba gooraba lama ogola inaad waalidka ku ateecdo inaad ka qayb gashana lama ogola inaad wax ku bixisana lama ogola allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta markuu silfeynay cibaadu rahmaan tilmaamuhu siye waxa kamida walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama ma xaadiraan meelaha xumaanta iyo baadilka lagu hayo ma xaadiraan baa Ilaahay tabaaraka wa tacaala zuurka waxa kamida xaflad kasta isu imaad kasta golo kasta oo wax shareecada khilaafsan lagu hayo waa zuur waay ruuxa cibaadu rahmaanka ee wanaagsan ee saalixana kama qayb galo waalidiinta rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka quraanka kariimka ku yiri
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لبدا والد هدي كوغو ييران inaad aniga xaqaygii meel kaga dhacdo ood adoomadii aniga waxna wadaajisood shirki gasho haday kuugu yeedhaan adeecin buu Alle tabaaraka wa taala warkooda ha yeelin khilaaf oo ku diid laakiin macnaheedu ma la dagaalanba xuquuqdoodii oo dhan wada diid miya maya wa saaxibuhuma fi dunya ma'rufan adduunyada wixii ah wanaag kula dhaqan xiriiri wanaag u samee ihsaan u samee laakiin markay timaado ilaahay shariicadiisa meel kaga dhaco alla khilaaf oo diinta meel kaga dhac oo rabbiga ka cadhaysi oo dambi gal markay timaado ha adeecino ha ka yeelin rabbi tabaaraka wa taala waxa loo baahay marka laba arrin iswaafajiyo waalidka wixii xuduudda shariicada aan ka baxsanayn waa lagu adeecaya wixii xuduudda shariicada khilaafsan oo arrimaha hadda la sheegayo kamida lagu adeeci maayo lagana amar qaadan maayo wixii kale tii ihsaankii kale iyo dhageysigoodii iyo daacadii iyo baarini samayntiina waa la wadaya wixii shariicada khilaafsan qodobkana waa lagu diidaya oo sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inma at-ta'atu fil ma'ruf sideedaba makhluuq waxa lagu adeecaa wixii ilaahay rabo oo macruuf ah ama wax kale lagu ma adeeco haduu sheekh yahay iyo haduu madax yahay iyo haduu waalid yahay iyo haduu imaam yahay xuduudda ibn aadamka sideedaba daacadoodu waxay ku xadidan tahay inta ilaahay la adeecayo waa لكن مر هدي الله داعدي سلقة بحو فلا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا سؤال سويدا بيس إن شاء الله تعالى وذات كانوا حولي هاي وحنكا عصانيا إنا نوفو سرتد إن آيادا الله سبحانه وتعالى وليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن أنت صورقتك سوقري marka sheekhana fariya tafadhal mashkuura bismillaahir rahmaanir rahiim aayadu macnaheedu waa iska cadahay oo ruuxii kulleeyay luqada quraanka garanaya san horeyba uu soo sheegay macnaheedu qarsoodi kuma jiro labada ummadood oo yahuudi iyo nasaarada ah raali idin kama noqonayaan ilaa aad diintooda raacdaan bimaana ilaa aad sidooda kala noqotaan oo mabaadiidooda qaadataan idin ma deynayaan آية كالتوس معناها لواك ربي شيء تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحي تعليهن إن قالوا ذان سيء قالوا بين ود مركا اسكم من نقطان يعني وحويان ومن باب الحسد حسدا من عند أنفسهم ويو خير كان لقول الربن روحا وحي لادان صومالدو روحا كبهلا ضدكو إني وذا كبابيلان بو تعليه ruuxa qaawana in la wada qaawanadu jeceliya midka jirana in la wada jiradu jeceliya midka baadilka watee dariiqa ka leexdayna in laga leexdu jeceliya marka labada ummadood khaas ahaan waxay inoo diidan yihiin nicmada ilaahay ina siiyay islaamnimada mabda'a saxda ah ilaahay khayrka uu inoogu deeqay wanaagaasay ka xun yihiin khaasatan hada wax weeyaan reer bani Israa'iil gaar ahaan waa ummadii kutubta iyo rususha hadda ka hor badankood laga soo diray way ayaga iyo carabtuna way wada dhasheen oo asal ahaan waxay ka soo wada jeedaan nabiyullaahi ibraahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam marka ilaahay tabaaraka wa taala risaaladii iyaga ka leexiyay oo carabta la siiyay oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi ilaahay uu qadaray inuu siiyo meeshaas ay yahuudi ka xanaaqday reer bani Israa'iilna ka xanaaqeen xasadku meeshaas uu ka bilowday ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi tawxiidka iyo kitaabka iyo khayrka wadata meeshaas marka dagaalku ka bilowday marka wanaag idin lama doonayaan haddana barnaamijka socday adduunka idin muuqday waa unka waxa un socda idinka laftiina hadda meesha joogay oo wadamada la idin geeyay wax kale la idin ma geynin inaad uun fasaadaan oo qaarna ay dabayshu qaadiyo mawjadu qaadaan oo diin la'aanba ku soo baxaan qaarna uun kaniisadaha galaan oo ay muxuu ahaay iyaga ku biiraan in labada inaad noqotaan xataa idinka hadii hadda la idinku guuleysan waayo oo kuwiinan waxoogaa meelahan ka tagay odayaasha iyo duqeytida ah ee maskaxdoodu meelahan ku samaysantay hadii xataa idinka la idinku guuleysan waayo generationada idinka dambeeyay dhasheen baa lagu tashanaya kuwa hadda waxoogaa idinku aad hor joogtaan xataa hadii lagu guuleysan waayo
waxa guarantee ah oo iyagu ay yani hubaal ka dhigayaan generationka labaad iyo ka saddexaad ayaga waxa weeyaan waxay leeyihiin hadal nagagama jiraba yani waxa weeyaan waa cunto bisil kuwaas sida ay qorshaha tahay marka mas'alada quraanku tilmaamayo waa midda iska muuqata waay waxaba yaraatay hanuun iyo diin iyo wanaag iyo toosnaan iyo akhlaaq idin lama doonayaan laakiin sidoo kale inaad noqotaan oo gaalowdaan taasay idin la jecel yihiin ilaa ay taa gaadhaanna raalli idinka noqon maayaan macnahaasoo quraanka aayado fara badan uu tilmaamay ayay aayadu sheegaysaa wabillahi tawfiiq jazakallahu khairan su'aal yar oo kooban oo hadda gadaal ka timid haddii aad ii fasaxdo ku weydiinayaa sheekhay تفضل ان شاء الله تعالى اوضم بس هذه الله واي ان بريان olole kulay ka socda meelaha yani gobolada dalkan kamid ayaa jiray kaasoo ah macnaha midowga diimaha dadka qaarkiina ay su'aalo badan ka weydiinayaan marka waxaan jeclaan lahayn insha Allah ta'ala inaan idin ka maqalno yani culimadeena sida yani Sheekh Al-Faale adigoo kale inaad kelimad yar oo kooban baa naga siisid يعني ميدو قديمها إيو واحد إسلام قوكا قوة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم مسألة دا أو ميدو قديمها أما التوحيد والأديان ديمها هلا ميدايو ومسألة هذا باللابطي ميهي وقتي النبي محمد حق يميد التوحيد كو يميد حلي قاسا لسوتشي دي ديمها هلا ميدايو idinka dad badani waxa laga yaabaa inaynan moodayaan oo fikrad hadda bilaabatay laakiin xilligii nabiga waxa loo soo jeediyay Muxammedo colaadan iyo dhibkan iyo diimahanaga iyo dhaqankanaga iyo asnaamtan aad garaacaysan iyo naga daayo warniyo aan heshiino oo maxaan ku heshiinaynaa aduguna ilaahaga sanad aan kula caabudno aduguna marna la caabud sidaana aan ku dhamayno hawsheena marna asnaamta nala caabud marna ilaahagan kula caabudayna aan wax isku darsanno waay arinta markay soo jeediyeen rabbi tabaaraka wa tacaala baa jawaabteeda bixiyo waddu law tudhinu fayudhinun balay waxay jeclaadeen inaad soo dabacdo iyaguna ku soo dabcaan ood meel dhaxa isugu timaadaan macnaheedu muxuu yahay waa diintaada ka imo waay nin aan waxba haysanin iyo nin wax haysta aan wax isku darsanno macnaheedu maxay tahay waxaaga aan kula qaato waay ilaa asagii haye waxaaga aan ka qaso waay nin baadil wata iyo nin xaq wata aan wax isku darsanno baadil aan ka wada dhiganno waay wayla wax weeyaa wax isfaqi kara ama isgeli kara ma aha Allah tabaaraka wa tacaala fi al-Qur'aan al-Kariim suuratul Ikhlaas ay culimada qaarkood ku magacaabaan يعني النبي صلوات ربي وسلام عليه قالوا مركي سيدنا وكلا أسو تشيديين هذا الكنده بالليل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بالليل وحاتر هذا النبي محمد قال يا هاي بالوركة ماشي لقى بلا wixii la wadwaday iyo la dhoodhoobahayay oo dham halkaas lagu kala firdhiyay gaala yahay orda gaalatiin balay kuwiinan gaalada ohow anigu ma caabudayo waxaad caabudaysaan idinkuna ma caabudaysaan Allah aan caabudayo dariiqa aan wax ku caabudayo tawxiidka kuma caabudaysaan shirki baad wadataan shirkiga aad wadataan iyo dariiqiisa aniga wax kuma caabudayo tawxiid baan wax ku caabudaya كان عابديننا وان ku kala bedelana oo anuna alla keligi baan caabudaa idinkuna asnaan baad caabudaan dariiqana waa ku kala duwan oo anigana dariiqaygu waa tawxiid idinkana dariiqiinu waa shirki waxa lagu khatimay diintiina leedihiin baadilka anuguna taydaan leedahay waxba isku darsan mayno طيب quraankii markuu halka dhigay mas'alada marka la soo jeediyay maanta in la yiraahdo diimihii baa la midaynaya oo dad xataa wadaada u ololeeyaan oo wadaadnimo u muuqda wadaadda ma aha kuwaasi wadaadnimo u muuqda oo madax ay u abaabulaan waxaasi waxa weeye waa gaalnimo aan geed loogu soo gabanin waa gaalnimo aan geed loogu soo gabanin weeye diin islaam oo sax oo samaawi ah iyo baadil hal mideeyo oo baadilka hal ictiraafo oo inuu xaq yahay hal ictiraafo oo muxuu ahaayay hal isku soo dhaweeyo
oo halla mataaneeyo waxaasoo dhan waxa weeyaan dad aan diin lahayn baa ka shaqeeya dad aan fahansanayn wixii ilaahay soo dejiyey baa ka shaqeeya wax midoobayana ma aha markaad diinta islaamka intaad ka tagto aad tidhaahdo kiristankuna waa sax yahuudiyaduna waa sax buudhisamkana waa sax siikhuna waa sax hinduuskuna waa sax kulli waa wada sax adna garlihid wax kula khaldan maba jiraba wax diinooda haysato ma jiro wax diinooda haysato ma jiro rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala faman yakfur bittaaquuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa inaad daaquudka ku kufrido waa tiirka koobaad ee tawxiidka allah keligiina aad u qirto xaqa tawxiidka aad keligii siiso daaquudka kaloo dhanna aad ku kufrido tawxiidku saasuu ku asixiba laa ilaaha illa allah maxay tahay laa ilaaha ila allah waa inaad diiddo baadilkoo dhan laa ilaaha ila allaahuna waa xaqiyood ilaahay keligii u sugto laakiin haddaad tidhaahdo muxuu ahaaye maya wax kale waa laysku wadi karaa laa ilaaha ma haysid ila allaahu keligeedna ku anfuxi mayso diin ma lihid marka iimaanna ma lihid islaamna lagugu tirin maayo masaladaasi inay caddaato waa lagaa maarmaan huuhaadan iyo waxaan adduunka maanta ka socdayo diimaa la midaynaya warkaasi muslimiintaa lagu sirayaa muslimiintaa lagu khayaamayaa tawxiidkoodaa lagu dhaawacayaa gaalnimaa lagu soo gelinayaa mas'alaha halisteeda wle qadiyadaa iyada ah waa diin la'aan in laga fogaado wey shirki iyo gaalnimo meeshii ugu dambaysay waa gaalnimo meeshii u dambaysay weeye ruuxu waxyaalo kale waa gelgeli karaa laakiin diimihii baadilka ee qur-aanku caddeeyey sax wey masalada culimmadu yidhaahdaan waayana waa masale itifaaqa wey oon laysku khilaafsanayn man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir gaalka gaalnimadiisu iska caddahay ee laysku waafaqsan yahay ee qur'aanka iyo sunnadu caddeeyeen iyo mabaadi'daasi ruuxan gaalnimadooda xukumin oo ka shakiya inay gaala yihiin asagaaba gaalaba man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir ma aha kaafirka ee laysku khilaafsan yahay ijtihaad ahaan ma gaaloobin ruuxan muslim buu ahaa ma gaaloobay mise ma gaaloobin naaqid buu ku dhacay diinta ma ka baxay mise kama bixin kaasi waxa weeyaan lagama hadlayo oo looma deliishan karo qaacidada ah man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir maxaa yeele gaalnimadiisa kaa ahlulcilmigii baa isku khilaafsan ma gaal baa mise waa muslim laakiin waxaa laga hadlayaa qaacidada man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir ee itifaaqee laysla ogol yahay waa dadka gaalnimadooda aan hadalku ka joogin wa kaas ruuxii ka shakiya gaalnimadiisa ama soo dhoweeya ama hadal geliya te isaguu la mid yahay isagii waxba isma dhaamaan masaladaasi marka waa sidaa in laga taxadaroon laynoo hoosgelinin waa laga maarmaan wabillahi tawfiiq جزاك الله خير الجزاء شيخنا إلهي سبحانه وتعالى وكعب المريو ميزانك أحسانك الله قدر سبحانه وتعالى إلهنا أن الله سبحانه وتعالى كوي يعني انتفاع وعدك السجاء إيو موعدة داس إيو إن مارت أدفايس كاس أنا سيسي إلهي أن قدر سبحانه وتعالى شيخنا نحبك في الله إلهي سبحانه وتعالى علمك يعني علمك عمرك عملك الله بركيه وجزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة عمرك عملك عرورت هذا عربت هذا الله سبحانه وتعالى كلها بركيه ونجنا إلهي سبحانه وتعالى نجوا أنفعوا محاضرة قيم كاهيد وكسوا انتفاع سنكرنا قرآنك sidoo kale anigoo ku hadlaya afka walka Soomaali Islaamic Altaqwa Center maamulkiisa iyo walaalaha soo dhamaan waxaan ku salaameynaa mar labaad 14 iyo boqolka waxaan kaloo aanu kaaga mahadcelinaynaa darsiga saddexda habeen baxa isniinta iyo talaadada iyo arbaca kitaabka muntatal akhbaar oo hadda ku sii dhowba 300 oo xadiis alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican loogu xay walaalaha qolkan habeen kasta soo xaadira oo ilaa 250 ah iyo qolal kale oo ku sii xiran ayaguna marka la isu geeyo aan intaas ka yareyn iyo walaalo kale oo idaacadaha kala socda iyo kuwa kale oo telefoonada kala socda dhowr kun oo qof alxamdulillaah rabbil caalamiin intaas ba habeen kasta ducada iyo kulay hawada ku soo marinaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu maartay noo ka daayo oo noo ka barakeeyo بعدين intaas waxaan mar labaad insha Allah ta'ala sheekh ka codsanayna su'aaluhu waa dheeraayeen waa إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوسارة وكفايدي سني انت واحدة ما راعين منه بس عدس كلي إن شاء الله تعالى بل بشي ما دام
hadda ardadaadii aan nahay anna aan dhaho ayaa laga soo baxo oo aan kabiir u ahay kitaabkaas alxamdulilah insha allah bal in aad maaragtay jaariska bishii saasoo kale bal aad bar annagana noo siisid idan ilaahay oo aan maaragtay dee u aragno arda shiikh lahoo shiikhoodii maaragtay u yimaado insha allahu tacaala si aan isugu aragno ilaahay subxaana watacaala ha ku xifdiyo insha allahu tacaala intaasaan kaa codsanaynaa akhiiratan insha allah aad noogu soo gabagabaysid bal walaalaha kitaabkaas ku xiran oo idaacadaha iyo telefoonada iyo aaladan intaba kala socdo bal cilmiga iyo insha allahu tacaala fadligiisa فليتفضل مشكورا شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى مر لبضاك وبركيه بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا مهمته وحي أهيد جزاكم الله خيرا إلهي تبارك وتعالى هينو وضع أنفعه علمك إيو qur-aanka iyo wixii aakhiradeenna danta ugu jirta ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo muhiimaddu waxay ahayd muxaadaro hadda loogu talagalay qolyahaas muxuu ahayd dibadaha masaajidaasi maraykanka mid ka mid ah waqtina way socotay su-aalaheediina kolley waa dhegeysateen haddii hadda fadliga cilmiga iyo laga hadla la yidhaahdana waa mowduuc iskii u madax bannaan oo muxuu ahaaye iska daba dheeraan kara ballanna waan leeyahay laakiin uun muhiimaddu waxay tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ibni aadamka markii uu sharfay sharafta ugu weyn ee uu ku sharfay waa cilmiga iyo garashada qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam abuurkiisa ka hadlaysay markay malaa'igtu yidhaahdeen أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون مركو الله أشيك ملائكته إنه آدم أبور الربو ملائكته waxay tiri ma waxaad ku abuuraysaa Allah dhulka dhexdiisa dad fasaadinaya dhiigana ku daadinaya arintaasi waxay muujinaysaa malaa'iktu يعني آدم ابن آدم كأبورستيسة وحوغا إني دب يفساد لا إيمان دونان بيت المامية الله تبارك وتعالى مركاسي أموشيو ابن آدم كو إنو سوى فساد لهين آدم أبورستيسة حكمة كتشرته أيا وحو ربي تبارك وتعالى مركا تصي وملائكتي كدع دعيي فضلك إيا شرفك وآدم ليه عرورتي سئين بدنو كمدنا أي ليهن fadligaasi laguma cadaynin xoolo lagumana cadaynin kursi lagumana cadaynin qurux lagumana cadaynin muxuu ahaayay sabab ka mid ah asbaabta adduunyada laakiin wuxuu rabbi ku cadeeyay oo sharafta aadam ku muujiyay cilmiga waa kii Allah tabaaraka wa tacaala wa 'allama aadama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika yani wax weeyaan wuxuu alla baray magacyada waxyaabaha jiro dhan magacyadoodu ilaahay baray aadam kadibna malaa'igtu u bandhigo wuxuu yiri anbi'uni an muxuu ahaay iiga warrama magacyadan kadibna malaa'igtii way ka cudur daarteen Allah tabaaraka wa tacaala aadam buu yiri marka bar oo u sheeg nabiyullaahi aadam calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam malaa'igtii buu macallin u noqday wuu baray sidaasay marka ku ictiraafeen fadligiisa kadibna waa kii sujuuda la amray inay u sujuudaan masaladaasi waxaan u keenayaa qisada iyada ah waa qisadii ugu horeysay oo quraanka ku timaada fi suurati al-baqara abuurkii asalkana ka waramaysa waxa meesha laga qaatay cilmiga sharafkiisa oo ibni aadam wuxuu ku sharfan yahay waa cilmiga aadamna sidaas uu ilaahay ku sharfay malaa'igtana ugu sujuudiyay cilmiga sharcigu marka qiimahaas iyo wanaagaas uu leeyahay waxaana isleeyahay intaasi sharaf ugu filan iyo qiimo ilaahay tabaaraka wa tacaala ciduu khayr la jecel yahay buu cilmiga waafajiyaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddiin mowduucu marka waa mowduuc iska guda ballaadhan laakiin waxaan idin dhihi lahaa wax la raadiyo maanta cilmigaasa ugu qiimo badan khaasatan xilliga fitanku ay jiraanoo arrintu isku qasanto oo xaq iyo baadilka la kala saari kari waayo dhiiggu daato oo arrintu ay isku murugto
sida nebiga axaadiistiisa ku sugan sal alla alay wasalam makhrajka waxyaalaha lagaga bixi karo waxaa ka mid a cilmiga shareecada. sideedaba fitanku waxay yimaadaan markuu cilmigu yaraado, markuu cilmigu batana fitanku waa yaraadaan oo way baaba'aan. sidaas daraaddeed waa xirsi xidh weyn, waana xisni la galo oo laga galo fitanka iyo balaayada laga galo. cilmigaasi sharaf weyn weeye, waa dhaxalkii nebiyada iyo ambiyada oo muxuu ahaayey xoolo lagama dhaxlin, adduunyana lagama dhaxlin, cilmigaasaa laga dhaxlay. nebigeenni ugu dambeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ambiyada dhaxalkiisii waa kaa. ilaahayna tabaaraka wa tacaala culimmada wuxuu ka dhigay khaasatu ahliliimaan buu ka dhigay, dadka muuminiinta oo si guud ahaan alla uu jecel yahay, haddana culimmaduu usii jecel yahay, waana dadka khaaska si gooniya ilaahay u xushay. culimmadan ka hadlaynana waa culimmada rabbaaniyiinta ah ee cilmigooda camalfalka ku dara oo isku dara alla kacabsiga, dhaqanka diinta iyo aqoonta isku darsaday. kuwa iyagaa wey martabad weeye marka in la raadiyo ay waajib tahay, loo qasta ay waajib tahay. ruuxu inuu diintiisa barto waa laga maarmaan. marka ku dadaala cilmiga dhagaysigiisa, raadintiisa, waqti ku bixintiisa iyo sidoo kaleeto ku camalfalkiisa. ilaahayna tabaaraka wa tacaala wixii khayr ah inoo furo, wixii sharana ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga sarfiyo. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.